waxaan kaloo ku weydiinayaa ma jiraan dad macbiila oo kambaniga saami online lacagay oo kaga maqan yihiin si wararkan baraha bulshada aadka ugu faafa maxaa ka jira madaxweynaha aad ugu naqanaa waa in dhalinyaro inuu taageero halkan ku jira intii ayuu soo diray yaan la soo dhan muxuu soo diray waxay ahayd $500 oo ka badan $500,000 in platformadaadii oo dhan hal habeen aad u soo kacdo iyaga shaqeynayn waqtigaas safaraad ku jirtay dad badan oo deegaano kala duwan jooga ay platformadaadaas markii waxyaabaha soo dhigto ay arkaan ay kula soo xiriir jireen soo kaaga iibsan jireen caqabad weyn baa dhacday oo wax yar maaha wax la yiraahdo saami online ha ma jirtay dadka lagu oranaya dadka halkan markii laga arkay unbaaba markii maadan meesha ma jirto kadibna ku turugtaantii baa waxay u gaadhisay saami dalkii uu ka tagay ma joogo saami waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa dadka alaabtii meesha ugu hayay ayuu alaabtii gabigeedaba intuu iibsaday ayuu dalka ka tagay ka dhoofay sheekada dameerkan ku noqonayna aniga laftigaygu dee page-kaaga waxaan ka mid ah dadka ku xidhnaa sax marar badanna waan ka adeegtay sax maalmaha ka mid waxaan arkay adoo dameer iiba xayeysiinaya sheekada dameerku sidee ku timi subaxdii marka soo toosay taleefankiina uu dabaysmay waxaan sameeyay waxaan eegay internetkii wax notification dhamma soo dhacay sababta halkan waxaan kala socdaa dalabaadka dadka hadlaaya dadka kale wax kasta notification dhamma soo dhacay waxaan isla eeg jimcana way waxaan isla bal saami online kal ma jiro saami online ma jiro maxaad dhiibatay nin kasta xoolihiisa sidoo uga naxay aniga xoola waxay ahaa moogtahay social media oo aad meesha ku iibinayso oo lagala soo xiriiriyay ha iga qaalisan maxay horta maalinta naxay heer waxaan gaarayna nigis baan xidhnaa garab intan gaariga ku soo boodo xafiiskii saami ganacsiga online-ka waxaa samaysay 2014 maanta waxaynu joognaa 2025 muxuu isbedel ganacsigaagu dhaliyay dhalinyaro intee leeg baa saami online.com ka shaqeeya shaqo abuur samaysay dhul buu ii qoray wuxuu waraaq soo dhul baan codsaday markaan wixii iigu muhiimsanaa moogta markaan dhul baan doonayay hungary wax kadis wuxuu ii qoray dhul hala siiyay saami uu ka samaysto warehouse maadaama hal abuur cusub oo fiican leeyimi way is arag maqal wanaagsan saaxiibayaal waa Cabdixakiin Qays bogga aad daawanaysaana waa Cabdixakiin Qays sidaan hore idinku ballan qaaday barnaamijkeenan toddobaad walba waxaan ku soo cusumi doonaa hal qof oo nuxur badan xambaarsan sheekadiisuna ay tahay mid aynu wax badan ka faa'iidi doono toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti ku ah nin dhalinyaro ah oo fikir hal abuur oo ganacsi aasaasay hilaadii 2014 oo ahayd xilli dhalinyaradu aad uga tahriibaysay dalkeena barnaamijkaasi wuxuu barnaamij ganacsi oo online ah waa mulkiilaha iyo aasaasaha kambaniga midabkiisu yahay orange ee sami-online.com Sami Cabdi Gabas intaana Sami u wareejin saaxiibayaal hadday tahay markii kugu horeysay aad boggeena soo booqatay fadlan follow garay sidoo kale hadday tahay markii kugu horeysay aad daawanayso YouTube channelkeena subscribe saar Sami Cabdi Gabas soo dhow waan dhawahay saaxiib Qays aad baad u mahadsantahay adiga iyo bahda kugu xidhanba waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah aad barnaamijkeena soo siisay sidoo kale waxaan kaaga mahad celinayaa in ay tahay markii kugu horeysay wareysi noocan laga qaadayo aadna naga aqbashay markii aan ku soo bandhignay programka maanta adiga ale markasta saaxiib Sami Cabdi Gabas dib noogu celi taariikh nololeedkaaga Sami waa kuma xaquu ku dhashay xaquu ku soo barbaaray dib inoo celi horta Sami Gabas waxa weeyaan Hargeysa weeyaan reer Hargeysa ku barbaaray Hargeysa sidoo kalena wax ku bartay Hargeysa badana waxa ugu badan aan oran karo waa waxa weeyaan inaan ahay reer Hargeysa okay Sami bal programkeenu waa wada sheekaysi furan oo caadi ah intuu socdo sidoo waxaynu wada sheekaysanaa laba qof oo makhaayad fadhiyo Sami waa maxay ganacsi online qofka aan aqoon saad ugu sharxi lahayd ganacsi online horta online marka la sheegayo guud ahaan geega Soomaalida amaan ha ka noqoto sidoo kalena ha iga noqoto waxa weeyaan in shirkadda Sami online aan waxa weeyaan dhinac ama kor u kicinayo markastaba
qof online markuu niyadda ku qabto wuxuu markaba niyadda waxa weeye kusoo dhacaya waxa weeye xidigtan gacanta ku hayo iyo midabkan iyo shirkadda Saami Online haddii aan waxa weeyaan nidhaahno online muxuu yahay online waxa weeyaan qofku isaga ama gurigiisa jooga ama goobta doonaha jooga goobtiisa waxbarasho goobtiisa shaqo intuu internetka dhex galo internetka alaab ka dalbado internetka lacagta ku dhex bixiyo sidoo kalena isagii aan goobtii tegin isla goobtiisii lagu keenayo alaabtiisii tusaale qofku imika isagii wuxuu ka dhex arkayaa alaab internetka dhexdiisa kadibna internetkaas wuxuu ka dhex dalbanayaa alaabta kadib waa loo soo deliver garanayaa meeshiisa loogu keenayaa taa macnaheedu marka waa online buuxa qaabka online ka ah waa marka waxa weeyaan ganacsiga online ka weeyaan online way badan yihiin laakiin kan sheegayna ka warramana kaas weeyaan Saami bal nooga waran safarkaagii iyo geedigaagii company SaamiOnline.com sidoo kugu dhashay fikirkaas xilmuuse kugu dhashay ni horta hawlba bay keentay waxa weeyaan markaste fikir kasto fiican badanaa dunida iyo halkeenan iyo meel kastaba waxa weeyaan caqabado ma ka soo dhaxbaxa anuu shakhsiyan fikirkan online ka ah markii horeba horta online wax la yiraahdo maba aqooninba online wax la yiraahdo maba aqoon laakiin caqabadii iyo hawlo jiray markaas ayaa wuxuu igu kaliftay inaan sameeyo blog ama page Facebook ah laakiin sababta ugu weyn ee isla doonashada noqotay waxay noqotay maalin anigoo iska hawlaysan iska warwarsan oo markaa bilaa shaqo noqday inaan u tagay ayadii macaan ayadii waxa la yiraahdaa magaceeda Gacdo Sureer Xuseen Xasan kale dhowr jeer waa sheegay sidoo salaam ilaahay ha shaafiyo ilaahay cimrigeedana ha barakeeyo waxa weeyaan ayadii markaa waxaan ku yiri ayiyo anoo iska yara hawlaysan iyo hawlahaas saasi u jiraano waxa weeyaan shaqooyinkii saasay noqdeen haddana waxaan wax ku bilaabo mahaye waxaan sameeyaa marka hal kelmadood waxaan ilaahay ugu talagalay in waxaan ka bilaabmaan ay ugu tiri waxay tiri wax lacag ka soo geliso lacag kaaga baxay sameyn kartaa hal lacag ka soo geliso si aan lacag kaaga baxay aan lacag kaaga baxay sababtoo lacag ma haynba waqtiga marka waxa qasab igu noqotay inaan fikro way marka dambe waxay noqotay inaan page ka dhex sameeyo Facebook marka Facebookana caan baan ka ahaayo magaca Facebook marka Saami gabas igu qorneen waxa igu qornaan jiray wiilka reer Hargeysa beriga waxay 2014 magacyada kala duwan dadku soo geli jiray magacyada ark sanaagi iyo waxyaabaha lagu soo Muqdisho iyo waxyaabaha marka uu wiilka reer Hargeysa markaan ku ahayd marka maadaama dad badan ay ugu xidhnaayeen waxay noqotay inaan halka page ka dhex sameeyo page-kuna mu ahayn magacan markii hore waxa uu ahaa Saami User Technology alaabta userka bis ayaan ku iibin jiray laakiin de online iyo waxaan sheekadan markaas aad samaysay Saami Online Saami User Technology markaasaan page ku bilaabay sax oo magaca Saami Online ku horreeyay Saami Online ku horreeyay oo user alaabta userka kombiyuutarada waxyaabaha ayaan soo gelin jiray sababta ugu weyn markaan soo gelin jiray waxay ahayd markan magaalada Hargeysa iska ganacsan marka bilaa shaqo leeyahay qofkuna aanu shaqo la'aanta ay dib ku tahay la qabsado ama guriga joogo waxa soo bixi jiray subaxii marka waxaan u iman jiray qolaan asxaabnahayo aad baan halkan uga salaamayaa la yiraahdo National Computers qoladaasaan waxa weeyaan asxaab aan ahayno qoladaasaan la fadhiyi jiray maalintii marka iyagu kombiyuutarada waxyaabaha si iibin jiray kadib halkaasaan alaabaha technology-ga amaba electronic-ga waxyaabahaas halkaasaan waxa weeyaan kala qaaday Saami User Technology Saami ma xasuusta alaabta kugu horeysay aad waqtigaas si online ku iibiso dabcan labadii horta way kala duwan yihiin Saami User-kaasi marka aan sameeyay laakiin markii dambe Saami Online aan bedel waxa jirtay alaabo electronic soo gelisay sida mobile celisa iyo sidoo kale computer celisa marka maalmaha kamid ah waxa weeyaan inaan baa ugu tiri macaamiisha kamid ah war Saami watan wax kasta laga iibsanay soo gelisay maad alaab soo gelisid waxa weeyaan alaabaha kala duwan waxa weeyaan dumarkii waxyaabaha sax dumarku isticmaalaha marka waxa soo geliyay ugu horeeyay waxay ahaayeen online ahaan waxaan ku iibiyay waxay ahaayeen charger yar oo binki ah oo midabka dumarku aad u jecel yihiin ah iyo sidoo kale waxa la yiraahdo ay dumarku khaaska u ahay kiishariyada sax kuwaas soo geliyay kuwaas noqday alaabihii ugu horeeyay horta la iibsado marka hore laga tocsanay waxa lahaa war waxaan soo gelisay waxyaabahan soo gelisay aan anshaxiyo aanay banayna dhaqanku laakiin muddo markii ku jireen oo markii dambe waa laga iibsaday ugu dambeyntii
saami waqtigaas iyo waqtiga hadda tiknoolajiyadu halkay marayso gaab fara badan baa u dhaxeeyay maxay kaaga dhigneed in waqtigaas inta lagu aamino bogaaga waxaad ku soo xaysiisay la arko lagula soo xiriiro maxay kaaga dhigneed aaminaada noocaas iyo horta caqabada koowaad ee ugu weyn aan waqtigaa arkay waxay ahayd taas sababtoo ah markan aan kuu sheegay ku leeyahay waxaan gelinayay moobiladii waxyaabaha dee online wax uu yahayba maba aqoonba laakiin waxay iga ahayd un beijkan maadaama dadku beijka waxyaabo kale yar waa ay soo geliyaan adigu wax soo geli laakiin online wuxuu yahayba waxaan ogaaday waxay ahayd 2014 dhammaadkiisii ilaa 15 baa ahayd baan filaya waa marka magaca uu bedelay saami online waxa weeyaan waxaan ku keenay saami online waxay ahayd inaan saaxiib nahay oo dabaqa saami online aan ku jirnay dabaqa saami online ahaa ayaa waxa ku jiray aad saaxiib u ahaan halka ma ka salaamay meel kastuu joogo khayra la oran jiray ninka markaa nin kale saaxiib ahaayeen meesha isku barano la yiraahdo maxamed cumar coachka waa garanaysaa dhiirigeliyaha isagana halka maan aad uga salaamay ninkaas markaa maan wuxuu igu yiri warni saamiyo ma taqaanaa wadigan wax soo geliyay beijkee ninka cali baaba la yiraahdo cali baaba do ha Jack ma la yiraahdo ninka Jeff Bezos la yiraahdo Amazon leh waxaan ku leeyahay maxay ahaayeen anigu sababtoo imabay de moogtahay baxsanay dadkaasi wuxuu leeyahay ragaasi waa raga online maanta waxa weeyaan marka retail la sheegay ama waxyaabaha tafaariiqda Amazon waa ninka leh iyo sidoo kale ninka kalena waa ninka jumlada markii baan baaray markii markaa noqotay inaan yiraahdo saami online maadaama dadkii nafarta waaweyn badan wax ku fahmayeen saamiga iyo magacayga ah iyo online kan isku raaciyay kadib halkaas ka bilaabantay in online wax laga iibsado marka alaabaha caadiyan laga iibsanayo way kala duwanaayeen dad way jireen iimanay laakiin online ahaan dad wax iga iibsada badanaa waxay ahaayeen deegaano kale ka soo jeedeen oo waxa weeyaan waxa la oran jiray ninkaas Salebaan Qardho halka ma ka salaamaya meel kastuu joogaba sidoo kale jeeri isaguna Qardho ayuu ku haystaa meher dabcan wareyska markii daawadaan kulay waxa weeyaan way iskaran doonaan reer Qardhona si fiican bay u garanay marka dadka ugu horeeyay ee online wax ku soo iibsadaan lacag soo dira lacag inta ii soo dira waxa weeyaan intayna saamiyo dadka u gudbin bilowga safarkaagan ku jirnaa maxay ahaayeen horta waqtigaas caqabadii ugu horeeyay ee kula kulmo sidoo kale sidee baad ku xalisay iyo horta caqabaduhu mid bay ka darneed tal is aaminayo waa halkeeda ta kale ugu darneed waxa dadka horta waxaan online kala yiraahdo wax kale bay ka aaminsanaayeen sax sababtoo qof aan halkan kula joogin xaafad kale oo magaalada jooga inaad tiraahid alaaban waxa weeyaan kaagaba iibsanaysan ka iibinaya kadibna ku keenaya waxaan aqliga galahayn ay ahayd kaadi wacyi markaas taagnaana iska ahayd sidoo kalena qof inuu isagoo meel kale joogo lacag soo diro ayaa wareer kala sii ahay sax oo aamino ganacsiga oo soo dirsado markaas waliba waxa jirtay dee qofku zaad yaro ama ii dahab ama ii fiisi shakhsiyan iska haystay moogta sax oo ku iibsiyo waxaan dee markaa lama gaari sax ka shakhsi waa haysto qofku xusuranay dib u baxaarnida waxa ma garanay ay ahayd caqabada horta koowaad taas ahayd caqabada labaad ee ugu darneed waxa ahayd dadkii markaa bulshada la nooshay wixii aadaan fahansanay markaa hore aan waxaan u dhacsanay way ku adagtay waxay ka dhagaysay sax marka jabtid oo waxaan ku wari aad casaatid ayaa laga yaabaa in marka dambe aaminaan laakiin ilaahay mahadi waxa farxadu de waxa weeyaan ay ii tahay in maanta online marka la sheegay saami marka la arko online la xasuusanayo wax lagu iibsanayo saami caqabadaha aad sheegtay tirisay sidaad ku xalisay adigu bilowna waad ahayd niyahow horta wax kaste ood u baahan tahay inaad xalisid ama aad ka guul gaadhid sax hadiiba waxaasi ay runkaa yihiin oo qalbiga ka soo go'een sax niyo saaxiibo waxa weeyaan halkaa wixii ka soo go'o ilaahayna aad u dhiibatid sax way hirgalayaan ku celi wax kastoo halkaa qalbiga ka soo go'a ood ku adkaysatid ilaahayna aad u dhiibatid ilaahu waxa ila qabo اللهم بارك waxa laga yaabaa inaan sinaba aan ku celin ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasto adaga ka soo horbaxaan adjeedid adoo dhex taagan bas arkaysaa dhunto ajiib marka taygu weynaan kala waxa weeyaan aan kaga baxay waxa ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayo inuu igu sugay waxa weeyaan inuu adkaysto caqabadahaas iyo anigoo dadaal yar dadaal ku daray bilowgii saamiyow ganacsiga bilowgiisi yaa role model ku ah iyo horta
markasto deegaankaad ku nooshahay ayaa wuxuu ku noqonayaa oona adduunka dee waxba badan aanad ka arkin cidda ku nool tusaale wax laga yaabaa magaaladaada aad ku nooshahay markaad arkaysidoo keliyaata inta magaaladaada ku nool in nin bakhaar weyn haysta ama dhowr gaari leh inuu ku noqdo role model anigu laakiin sideedaba ilaahay baa mahad uga sugnaatee waxaan jeclaa inaanan waxa weeyaan wax ka duwan dadka mar kastaba inaan helo ama aan sameeyo ilaahay waxa weeyaan mar kasta waxaan ka bari jiray ilaaho xataa iskuulka markaan dhiganahay dugsiga ama qur-aanka markaan dhiganahay waxaan jeclaan jiray inaan noqdo qofka koowaadee markaas qur-aanka ka baxa si aan uga duwanaado dadka kale amaba marka cidda koowaadee iskuulka waxa markaa imanaysa haddii aan rabo inaan wax helana wax dadka mar kaste dee macnaha niyaddooda ka weyn ayaan jeclaa inaan helo taasoo ahayd inaanan mar kastaba aanan eegi jirin waxaan hareerahane waxaan filmaanta ka arkay waaweyn aan isdhaahdo waxa weeyaan aan maqli jiray dadkaasaa caan ah oo waxa weeyaan maalqabeena ah oo saas inkastoona saa usii kala garanahayn laakiin cid aan odhan karo ciddaasaad ku dayanaysaa toos imankaan u sheegi kara intii dambe aan wixii fahmay mooyaane markaa hore cidba badana hawsha wadun bayga ahay saami lacagta maxaad ku macnayn kartaa agtaada waa wax sidee ah niya horta lacagta ma hore mise intan dambe labadaba hore wax sa caadiya iskaga haysto laga maarmi karaa sax wax la-aantii la noolaan karana waanu haystay markii hore ha waay laakiin intan dambe waaye aragnimada badan ay waxa weeyaan ay korodhay lacagta la-aanteed gaal iyo muslim waxa doontida haw cidda doontida haw lacag la-aan waa gurnimada keliyaata sheegi karo markaad keliyaataad gun tahay oo gurnimo lagugu sheegi karo oo wax dhinti lagugu sheegi karo markaad lacag la-aan tahay lacag la-aantu waa waxa keliyaata ee adigoo meel sare taagnaa hoos ku geen karta adigoo waxa weeyaan qof sida doontid u fiicnoona sida doontid u sarrow haddaad bilaa lacag tahay oo lacag la-aan aad tahayna waa waxa keliyaata dadka kaa leexin karta marka lacag la-aan dhibkeeda allah inaga hayo sanadkee buu ahaa saamiow kambanigaagu sanadkii u qabtay dhaqaalaha ugu fara badan iyo horta dhaqaalihii horta si loo kala yaqaana laakiin muhiimaddu waxa weeyaan qaabkan anu aqaano ah marka waxa weeyaan meesha ugu fiican la gaaro tusaale markaad shirkada haysatid shaqaalahaad kafaysid hal abuur fiican aad soo kordhisid sidoo kalena markaas aad wax dhigaala aad ka heli kartid dhaqaale markasta horta way kasoo xaroonayeen laakiin sanadkii ugu fiicnaa ayaa wuxuu noqday haddana sanadkii ugu xumaa marka saan leeyahay waxa weeyaan sanadkii ugu fiicnaaye saami online isoo mara aan arkay ee hore wuxuu ahaa 2022 wuxuuna ahaa sanadkii igu darnaa iguna adkaa oo waxa weye adayguba halku ka bilaabmay ah marka dabcan tira ahaan wax lacagan odhanna intaasaan ka faa'iidin laakiin wuxuu ahaa sanadadan soo kordhiyey shirkado kale oo kala duwan oo waxa weeyaan magacyo kala duwan leh sida shirkadda saami delivery waxa weeyaan waa sanadkii ay cirka gashay weeyaan oo dhaqaaliyan ku bilaabayba intii badneed halkan ka helay in yaroo 3,000 mooyaane oo kaga gableystay shirkad la yiraahdo waxa weeyaan hay'ad har hab la yiraahdo mooyaane laakiin waa sanadkii ugu cajiibsanaadu sanadkaas waa laakiin sanadda kale oo cajiibo waa sugu naamin kaba bilaabmayba goorma ahayd markii kuugu horreysaad dareento ganacsigaagan online ka horto inuu shaqaynayo waqtigaas maxaa dareentay niyahow horta markaad waxaa aaminsan tahay waxa lagama yaabo in marnaba waxa weeyaan ay hoos kaaga dhacaan aaminaadda marka koowaad waxaa bilaabaysa dad aaminaad gelisid in waxaas soconayaan waxa weeyaan way ku soconayaan anuu shakhsiyan markaan bilaabayay saami online kow aan wax ku iibinayay waxay ahayd waqtigii la odhanayay waxa weeyaan aan saami online ahaan aan saami online u bixiyey aan pageka waxa weeyaan aan magaca u bixiyey dadku haba idhaahdaan waxa weeyaan war waxaan ma shaqaynayaan waxyaabahaas laakiin markaan ogaaday waqtigaasoo ahaa waqtigaasina waa waqtigii igu darnaa 10 qof haddaan arka 5 ka mid a odhanaya wax fiican baad bilowday 5 ka midna waxay odhanayeen waxaan dalkoodii ma jooginayaho dalkoodii ma joogtid waxaan isku wareerin shaqooyin kale iska raadso waxaan waqti ay shaqaynayaan weli maynu gaarin
ya saamiyow markan xafiisyo badan baad yeelatay maxay kaaga dhignayd in xafiisyo yeelato iyo horta xafiisyadu haba badnaadaan laakiin mid kasta farxadiisu watay anigu xafiis iigu horreeyey farxaddii koowaad waxay ahayd markii koowaad xafiiska koowaad aan yeeshay xafiiskaasina wuxuu ahaa markaan yeeshay 2016 ayuu ahaa waqtigaasina wuxuu ahaa waqtigii ugu farxadda badnaa noloshayda wax xafiis la yidhaahdo aan u leeyahay intaan xidho aan furo waxa weeyaan aan yeesho marka in xafiisyadu ha bataan farxaddooduna ha badato laakiin hawshooduna ma yara waxa weeyaan laakiin xafiiska koowaad farxad weyn aan ku sheegi karaya maadaama xafiiskii koowaad ahaa wuxuu ahaa xafiiska markii koowaad aan furay $100 ku kireystay waliba bishii koowaad waxa weeyaan leega daayay halka ma ka salaamayaa ninkii waxa weeyaan markaas waxa la oran jiray Xasan baa la yiraahdaa Xasan Ibrahim aad baan u salaamayaa muuqaalkayga hadduu arko waxa weeyaan ninkaas bishii koowaad leega daayay bishii labaadna bisha labaad baa markaa ka wuxuu markaa dareemay inaad tahay nin dhalinyaro oo ka go'naansho iyo dadaal badan iyo juhdi bixinay ma sha Allah tabaaraka Allah halkee bay ahayd meeshaas aad ka wuxuu ahaa fooq samkiibu ka soo horjeeda oo fooq saami online baa la yiraahdaa hadda dabcan ma deganin dadka aan garanayn somkee magaalada Hargeysa ka furtay magaalada Hargeysa gaar ahaan in fooq samkiibu oo Sheekh Bashiir sax haddii la yiraahdo fooq saami online cid kasta way garanaysaa xataa imika anagu deganin oo meel kale u guurnay waxa weeyaan qof kasta uu garanaya fooq saami online fooqaasaan markii koowaad waxa weeyaan aan ka kireystay fooq waxa weeyaan xafiis laakiin hore ugu shaqeynayay oo jaranjaradiisa ayaan ku sii shaqeyn jiray mararka qaar waxaan ku shaqeyn jiray xafiiska saaxiibkayga ku sheegay khayre xafiiskiisa aan waxa weeyaan aan ku shaqeyn jiray si kumil gaara markuu baxo ayuu soo dhiibi jiray isagu waxa uu ahaa magaaladiisu waa reer Burmuha marka maalmaha fasaxa ah iyo maalmo shaqooyin u baxa iyo inta yar u baxa iyo ayaan sii gali jiray sax inta sii furto markuu imaado laakiin waa ka bixi jiro waxaan ku jiray jaranjarada sare ee dabaqa marka jaranjaradaas laftarkeeda iyo waxa weeyaan khayre iyo xafiiskiisa wuxuuba xusuus gaara ay waxa weeyaan ay leeyihiin saamiyo maxaa ku suurtageliyay inaad mar qoriga gaadho meelo aad u tiro badan samiconline.com na si weyn loo barto iyo saaxiib horta wax kastaba waxa ugu horeeyaa wax weeyaan markaas saameyn dadka ku yeesha sax ilaahina ma hada ha sugnaatee inaan ugu horeyno maahaane waxaan nahay cid ugu weyn online wax weeyaan wax ku iibisa sababtoo ugu weyn saameyntu ay ku timid waxa weeyaan marka juhdi iyo ilaahay mahadiisa laga imaado waxa weeyaan dadaalkii iyo inaan wixii bilowna aan ahayn cid ugu horeysayna aan ahayn cid ugu fiican waxa qabanaysana aan nahay deegaano badan aanu gaarnay macnaha taasi waxa weeyaan hadda aan kula hadlaayo magaca online waad baxsan kartaa qays online waad oran kartaa laakiin muhiimadu waa sirtu waa dhadhanka weeyaan sirtu waa dhadhanka qofka intuu halkan sigiyo jooga qof Jabuuti jooga ama Muqdisho jooga ama Garowe jooga ama Gaalkacyo ama Jigjiga inta laga yaabo inaad saa u garanaysid bee qabri dahar qofka jooga ee wax soo dalbanaya isagoo na garanahayn meel aan ku naalno markii hore fooqi weynaa saami online deganin ayaaba loo garanay laakiin tusaale hadda aan kula hadlayno isagoo magaalooyinka kala duwan jooga intuu website-ka dhex galo ama WhatsApp-ka uu ka soo hadlo uu kaliya magaca saami online soo doonto ama waxa weeyaan calaamadda saami online iyo magac ahaanta brandka intuu soo doonto wax ka dalbanayo zaadka dahab EVC Premierka waxyaabaha lacag bixintana lagu qabanayo lacagaha ku soo diray birta ugu soo dirayo ee loo geenayo goobta joogay inta loo saaro delivery loo saaro loo geenayo waa shirkad kaliya 100% online ahaan ku adeegta ayaanu hadda nahay horena u ahayn laakiin adu qays waad kala bixi kartaa qays online inta la baxdid dukaan furan kartaa wax oran kartaa hadhow qofkii waa hagi kartaa warniyo Hargeysa ku naalna ama waxaan ku naalna waxa weeyaan Garowe ku naalna meheradaydu halkaa ka soo laab halkaasay tahay qofkii waad ku oran kartaa laakiin waa inaan kula sirto waa dhadhanko qofkii oo na garanahayn ku garanahayn kumanaan ku dooray intuu ku soo diro oo dahab kugu soo diro ama adigu lacag bixinaha kala duwan kugu soo diro kadibna alaabtiisi ka sugo halku joogo
kadibna aad u geyso isagoo bartiisii jooga waa shaqo adag waa maaha shaqo yar taasoo noqonaysa waxa weeyaan in macnaha magacii inuu magacayga meel fiican u gaaro ta keentay weeyaan oo haddii maanta waan hubaa aad tisaahid calaamadan imika tusaale calaamadaa waayo qof kasta waa saami online calaamadaa saami online weeyaan taas markaa juhdi yar kuma iman sax ilaahay mahadi iyo ilaahu nagu sugay inaan dadaalka samayno maahane dadaalkii waa la nimid dadaal iyo hal adeeg bay ku hal adeeg iyo dadaal bay ku timid saami ganacsiga online-ka waxaa samaysay 2014 maanta waxaynu joognaa 2025 muxuu isbedel ganacsigaagu dhali dhalinyaro intee leeg baad saami online.com ka shaqeeya shaqo abuur samaysay يا صاحب وقتك مركزته توي قلوب شرو أيوه هاي سام أونلاين هرب وحاول شقينا هاي ترى صدق حلباتها نليرة وحفيسيو كردون كشقينا هاي ويترين ضد بدل كوا مدرين دليفري وحكوا مدرين لكن تسام أونلاين هات أيام كل شيء لكن وقت يضم وحي كتب بيه لباتنك weliba labaadka kuma 23 wixii ka dambeeyay ayaa waxa weeyaan caqabadaha iyo isbedeladii dagaaladii iyo waxyaabihii badnaa dhacay ee deegaanada Soomaalida ka dhacay ayaa wuxuu keenay hoos u dhac iyo sidoo kaleba qaybihii meelahan kala duwanaan deganeen oo meelaha qaar aan ka guurnay iyo sidoo kaleba suuqa guud oo Soomaalidu isku wada ogtahay suuqa guud oo hoos u dhacay suuqii iyo dhaqaalihii Soomaalida oo dhulka galay waxyaabaha laakiin hadda laftarkeeda tira intii wax badan aan ka badnayn aan ka yarayn ayaa ka shaqeysa hadda xarunta Muqdisho iyo xarunta Hargeysa ayaa hadda waxa weeyaan toos oo shaqaalaha intay fadhiistaan ay adeeg iyo dalabaadkii waxyaabaha ay ka qabtaan laakiin adeegiigu magaalo kaste oo marka la sheegayo geeska Afrika adeegiigu meel kasta u gaara tusaale waxaad soconaysaa imika magaaladaas leedahay waxa weeyaan jigjiga waa magaalooyinka ugu badan ee dalabaadka laga soo dalbado iyo waa xagga hore waxa laga yaabaa imika maanta jigjiga waayadan dambe in marka qofku deegaanada Soomaalida niyadda ku qabanayo jigjiga marka niyadda ka soo dhacaysa Garowe iyo Djibouti iyo Garowe saas laakiin deegaanada fog ee Soomaalida tusaale Djibouti waa magaca guud oo waxa laga yaabaa magaaladii iyo wadankii bay isla Djibouti noqdaan laakiin qofku dadka qaarina aan maqlin laga yaabaa Carta oo kaliya Carta waxa weeye waa Djibouti ha deegaanada laga soo magaalooyinka laga soo dalbado Carta haddii aan kuu sheego deegaanka Soomaalida iyagana qabri dahar magaalada la yiraahdo iyo dowlad deegaanka ka tirsan qabri bayax iyo magaalooyinka dalabaadkaygu gaaraan macaamiil fiican ku leenahay halkan waan ka salaamaya ay ka mid tahay waxa weeyaan waa magaalooyinka Soomaalida maqalkooda ku yar ayaan sheegaya laakiin deegaanada kale haddii Muqdisho la sheegayo haddii Kismaayo la sheegayo Hargeysa Berbera waxaas waa ما شاء الله تبارك الله marka saami online.com xafiiska ugu weyn Hargeysa ku leh Hargeysa weyn dad ku nool deegaanka qabri bayax baa ka adeegtay sidoo kale Kismaayo ka adeegtay wow meel kasta qofku hadduu online niyada ku qabto uu internetka galo meesha koowaad wax ka dalbanayo waa saami online alaab tusaalan ku siinaya halkan qof kasta oo saami online waxa weeyaan macaamiishiisa kamid ahaa kamid noqon doona inta badan mahad celinaya laakiin waxyaabaha cajiibka ah teamku mararka qaar aan ka wareysanayo waxa weey cajiibka ah waxa kamid ah dadku intay soo qaadan sawiro meelo kale ama page kale lagu soo xaysiyo ay anaga noo soo dira waanaha alaabta ma haysaa fiiri de uu ka heli karaa meeshii kale uu ka soo qaatay aaminaadii baad leedahay ba waka meesha kaliya qofka markuu online wax ku iibsado ku soo dhacaysa waa saami online marka alaab kale lagu soo diray sawirkii waka alaab kale qof kale soo xaysiiyay ayuu soo diraya alaabta laga yaabaa inaan hayno inaan hayn laakiin waa u helaynaa laakiin waxaan jeedaa muhiimadu waxa weeyaan sababtan uu soo diraya wala waxyaaboodba inuu saami online uu leeyahay saami online meel uu hagaago oo waxa weeyaan magacana way leedahay meel uu hagaagana way leedahay kow iyo inuu leeyahay oo uu og yahay saami online in magaalo kastuu joogo inuu ugu geynaysa alaabtii labadaas oo isbiirsaday oo qofku ugu dhiiranayay inuu saami online wax ka soo iibsado
way saami shirkadu waa shirkad weyn maxaa ka caawiyo maamulkeeda sideese hawsha u gashaa miyahow horta maamulku wax hawl yar maahan intii waxa weeyaan karaankayga ah ee aan aqoon ahaan iyo dadaal ahaan iyo wax kasta aan u qaadanayo waa ku maamulaa horta dad iga aqoon badan oo aqoon ahaan iga badanna waxa weeyaan way la maamulaan saami online horena way la maamuli jireen marka wixii oo la isbiirsaday iyo tiimkaasoo isbiirsanan baan wax ku maamulaa horta keligii waxaan badanaa gaari karayo wax ku wadi karayo ma jirin halkan oo uga mahad celinayaa tiimka saami online kuwa hore iyo waxa weeye kuwa dambiyo kuwa iminka joogaba laakiin inaan waxa weeyaan maamul ahaan la-aantood badanaa iyaga oon de waxbay la maamulahayn badanaa wax ma noqdeen marka iyagunbaa waxa weeyaan anagoo isbiirsanay baan wax maamulnaa sidee ganacsigaagu u bedelay noloshaada shakhsi ahaaneed qaabkaad u fikirto iyo sidoo kale saaxiibada niyo anigu shakhsiyan ma ansan waxa weeyaan markii hore waxyaabo kale aan ku fikiri jiray markii koowaadba inaan sameeyo anu ganacsada inaan noqdo markii koowaad ma ansan jeclayn oo waxa weeyaan niyaddeydana kumay jirin laakiin duruufaha qaar baa waxay ku gelinayaan howlaha qaar duruufahaasi kuwa de markaa kula joogi iyo kuwa kaa maqan oo kugu imanaya waxbaa noqdaan laakiin markii hore waxyaabahan aadka aan u xiiseyn jiray waxaa ka mid ahaa inaan noqdo orodyahan marka hore waxaan ugu talagalsanaaba noloshayda baan u boodboodi jiray waxay ahaydba inaan orodyahan noqdo oo 100 mitir iyo 200 mitir shanta fagaxda aan ordo laakiin dee wixii qoran waa qoran yihiin saami online baa waxa weeyaan aan aasaasoo noqotay meeshii waxa weeyaan aan dee mustaqbalka dhan halkan ka eegayay dabcanna waxyaabo kaloo ka fiican iyo waxyaabo kaloo ka sarreeya way imanayaan laakiin halkii ay bedeshay noloshayda mustaqbal ahaaneed iyo dhaqaale ahaaneed iyo si kastaba waa saami online marka saami online si kasta way bedeshay dabcan saaxiibo waa leeyahay laakiin ma oranayo saaxiibo ma lihi saaxiibo waa leeyahay saaxiib la-aantu waa iska hawl badanta laakiin de sidii hore saaxiibada la noqonahay ayaan ahayn waxa weeyaan saaxiibadun da waqtigii dantu tiraahda in la sarko unba la sarkaa iyo wicitaano sababtoo saaxiibadii way kala danaysteen imanka saaxiibadii yaraantii kubad la wada ciyaari jiray hawl la wada ciyaari jiray dabcan hadda muuda joogaan markaa salaantii unbaa ka dhaxaysiiyo mararka qaar shaxda soo wada cabeen laakiin aniga saaxiibkii koowaad iyo meesheedii koowaad waa inaan saami online taasun dhex joogo iyo gurigeyga aan dhex joogo intaasun baaba saaxiibtinimada waay ma xasuutaa maalintii ay kuugu darnayd ee culis kaaga yimaado dhanka shaqada daba maalintii kuugu darnayd niyahow culis mar walba dee waa jiraa ma ogtahay oo in xarumaha badan maamulaya baa tahay laakiin maalintii kuugu darnayd bashi niyo horta runtaa fiican waaba dhidido iminka laftarkeedaaba naxay moogta waxaa jirta culayskay u darnaa culeysyadu waxay kala yihiin qaar la filanayo qaar aan la filanahayn waxay ahayd 2022 August 19 waa markii ugu darneedee waxa weeyaan culays aan sheegi karayo un xusuusto culeysyada qaar kaama go-ayaan oo lama filaanka ah iyo waxyaabaha kale waxay ahayd maalinkii platformka saami online hawada laga saaro gebigiisa dhan tusaale pageka oo kale pageka websiteka instagramka social media wuxuu ku lahaayo dhan hawada laga saaro marka dabcan maalinkaa waan xusuustaa hawada laga saaray maxaa ka wadaa waxaan ka wadaa hawada laga saarayda anagu manihin dukaan inta toos loogu soo hagaago loo imanayo anu platform baan lahayn internetka dhexdiisa wax ku yibin xarunteeduna waan lahayn xarumaheega maalin baa waxa dhacday 2022 bisha bishii 8aad anigu shakhsiyan waan safar baan yar baxay safarkii markaan baxay baa waxa dhacday waa soo laabtay habeenkaan oo daalan ayaan soo laabtay gurigii baan nimid waa iska seexday jimcaha soo geliyay marka jimcaha soo galay maalinkaan waxaan ka qayb galayay jimcaha xaflad ayaan ka qayb geliyay iyadana aan u diyaar garoobay adigu subaxdii anigu waxaan ka mid ahay markaa aan kuba tusay dadka tusaale mobilkayga waa kana mobilkayga waxaan ka mid ahay dadka sidaasuu
macnaha uga warhaya saami online صح iyo team kala dul joogaan hadana saami online saasan uga warhayayo wixii cilada wax kasta sababtoo ah nin kaste xoolihiisa cid uga ma horeyso أديات ilaalintiisa أديات maalinka safarkan baxay internetku iga damay waxa dhan adigu wada waxa noqday waxba yahay oo internet meel aan xiriir ka hayay ma jiri habeenkii marka soo laabtan waan daalana waan iska seexday subaxii ayaan soo toosay marka subaxdii marka soo toosay taleefankii uu dabaysmay waxaan sameeyay waxaan eegay internetkii wixii notification dhan soo dhacay sababtoo halkan waxaan kala socdaa dalabaadka dadka hadlaaya dadka kale wax kasta notification dhan soo dhacay waxaan sii eeg jimcana way waxaan sii bal saami online kal ma jiro saami online ma jiro maxaad ii dhiibatay nin kasta xoolihiisa siduu uga naxee aniga xoola waxay ahaa moogtahay social mediaha oo aad meesha ku iibinayso oo lagala soo xiriiriyay ha iga qaalisan naxdinta horta maalintaan naxay heer waxaan gaadhay inaan nigis baan xidhnaa iyo garab intaan gaadhiga kusoo boodo aan xafiiskii imid saami online anigoon markaa daniinahayn nigis baan xidhantay iyo labisi waxaa warnimada waa mobilka wax ka qaldayna xafiiska markaan tegay dalaqan yiri aan furay computerka shiday maxaa ma dhiibtay waxaad wadaysaa Facebook Instagram Twitterki website-ki ha wixii saami online platformka ku shaqeyn jiro WhatsApp-ka bis WhatsApp-ku wala markaa ayaan u tagay horta maalinta igu naxdinta badneed maalintaas ahayd maalinta dhibka ugu weyn aan dareemana maalintaas ahayd sababtoo ah hore waa kugu sheegay ma filayaayo sanadkii ugu fiicnaa 22 buu ahaa aan meesha ugu fiican markaa bilow aan ahayn meesha ugu fiican gaarin magacayduna meesha ugu fiican gaarin maalintii ugu naxdinta badneed maalinkaas ahayd sababtu waxa weeyaan dee isla sanad bay ahayd oo sanadkii wuxuu noqday waxa laga eegaa meelaha qaar shaqaalaha lacagtiisa ma bixin kartaa karooyinka lacagtooda ma bixin kartaa faa'iido ma kaa soo gelaysaa sanadkaasi sanadka ugu macaanaa oo noo bilaabmeen buu ahaa shaqaale ahaan marka sheegayno kara ahaan marka sheegayno tiimka farxadooda xataa markaan arkay waqtigaa tiimkaasu ahaa niyahow jimcay ahayd sabti baa soo gelisay tiimka maalinkay soo galeen waxay meesha yimaadeen meeshii iyo dama oo tusaale iminka halkan iminka aan isku wareysanayno ama tusaale oo dukaan ah dukaankaasi haddii meeshaas laga waayo macnaheedu waa arrin murugadisa dadkii social mediaha ama saami online ku xidhnaa markay subaxii kusoo kala lahaan maadaama dhayli wax looga dalbanayo saami online marka la galay war saami online ba wax ka dal maga jiraba dadku isweydiiyeen saami markaad ku baraarugtay in waxaas oo dhan hawada laga saaro bal dib ugu noqo maxaad samaysay ficilamaad talaabaad qaaday warnaamay waxay horta dee maxaa sameeyaa horta talaba farahay ka baahday way wixii ugu muhiimsanaayeen sameynay waxa inaan dad aan wax ku tuhmayay inay social mediaha ay aqoon badan u leeyihiin wax soo celiyaan aqoonta waa kala leeyahay laakiin aan ku ixtiraamayay Facebookyada dib soo celiyaan Instagramkina dib soo celiyaan waa la xiriiray miyahow hal midna waan ogaado markaa caqabadu ku haysato horta qofta ilaahay kuu soo diray maahane walaahi saad uga baxdid way adag tahay miyaw sidii horta aan dad u raadinayay waxaan aqoon u leh oo soo celin karaya dadyaga qaar way dabcan waxay weydiiyeen su'aalo waxa weeyaan su'aalahaasoo ah ma haysaa emailkii ma haysaa ID-gii page-kaaga ID-ga page-kana markasta qof baa waxbaa moogtahay marka caqabad timaadad wax ka faa'iidaa moogta sheekadaas iyo maan qoran jirin marka ID-gii bay weydiiyeen dadka markaa la xidhiidho ugu horreeyey waxa weeyaan dadka dee macnaha iga dhacay muhiim maaha inaan sheegno laakiin dadka sida fiican igu yiri ID-gii soo sheeg waxyaabaha laakiin aan sheegi kari waayey waxaa ka mid ahaa macalinka soola la yidhaha soola cabdinaasir ismaaciil baa la yidhaha marka dadkan ku tuhmay markaa inay wax soo celin karaan ayuu ka mid ahaayo laakiin su-aalahaas weydiiyey su-aalihii markan dee garan waayeyna wixii ugu yar adkaato qofkiina diinad wixii hadduu ku yiri waxaas wixiina aanad haynin way ugu adkaatay qasab waxay noqotay inaan page kale aan sameeyo page kale laakiin aan sameynayay waxay noqotay dadka saas ugu sheegaysaa wax
waxaan qarinayay markaa saami online hawada ka baxay sababtoo ah saami online aan kuu sheega mide saami online ma ahan anigu dukaan yaro intaan leenahay anagu oo alaab yar noo taal alaabta yar noo taalla aan anagu iibinayn oo qofna aan naga warhelahayn saami online kumanaan kun oo qof wax ku dhex iibsanay alaabtooda meelo kala duwan kala jooga oo meelo kala duwan jooga alaabtooda u dhex taalla oo inta alaabada soo dirsadaan ban warehouse ka saami online halkaas macna iibiyaal bay ahayd oo sida aan u shaqeynaba ahba dadkii saami online kii arki waayeen ba WhatsApp kii halkan ka soo marqlo halkan bay ka arkayaan oo mobilka ka arkay laakiin page iyo Instagram iyo page kan meesha kaliya dadku arkaan oo de Facebook maadaama uu kala website waxa ka khatarsan ka caansan ayuu waxaan qarinayay inta teamkan u sheego teamkan ku baliyada suga intay wax soo noqonayaan waxay ahayd waxa weeyaan 20kii bisha August sabtidii markan teamka u sheegay ilaa 23kii August 23kii September bishii 9aad ayaan qarinayay way u adkaato dadkii wada kastoo marayo waxay dhawareen saami online maxaa ku dhacay saami online maxaa ku dhacay daas mid dadkii ku dadkii ma dawni page maxaa ku dhacay meeshii lama arkay Instagram maxaa ku dhacay meelaha dadkii marka ogaaday inay ogaadeen dadkii wax ku dhex iibin jireen ay ogaadeen in saami online de hawada ku jirin hawada laga qariyay inuu maadeen warsaami de meeshii maadaama meeshii jirin ba ay alaabahoodii ah alaabaha dib u qaadana waxaan yara dareenay ma garanaysaa culays badan oo ah inaan waxaan inta la soo celinay la soo karnay page kale iska sameeyay page kale sameeyay laakiin maalinta aan page ka sameeyay waxaan ka soo baahiyay waxa weeyaan bugaga warbaahinta ayaan ka soo baahiyay bugaga warbaahinta qaar aniga codsaday horta inaan ka soo baahiyo abaalna waan uga celinayaa dabcan de moogta qofka in yaro abaal ku laba inta qofkaas abaal bii ku leeyahay ana sheegtay ha dadka ugu horeeyay u sheegay maalinkaas aan ku yiri ma soo baahinaysaa waxa weeyaan de hawshaas ay ku dhacaysaa saas waxa wariyaha la yiraahdo Khalid Fodari ha beachiisa marka Khalid Fodari uu yiri waxaan ku yiri baahinaysaa saaxib wuxuu igu lahaa saaxib waan ku baahinayaa ii soo dir dadkan waan kuugu diraya marka waa u diray akoonka cusbaad ha muuqaal baan duubay aad ku sheegayso inaad page cusub samayso wixii hawlihii sabsado macaamiisha saan nala socoto halkan dambana ay ku soo biiraan iyo jabku waxa weeyaan marka horta wax sheegtid oo tiraahid waxa saacilada jirtay inta in la yiraahdo al wariyooyinkii hawshaas shirkadda ku dhacday waxa weeyaan haloo gurmado like ta halaba boobo moogta wixii toos bay iska noqdeen waxa noqotay alla beaches aha la iska jabsaday iska daay waa caadi beach ka samaysanay alla markaas aha wax yar iska caadi likes badanna beach ka cusub muusan helin laakiin dad badan oo ka soo falceliya way jireen oo aad aan ugu mahad celinayo waxaan islahaa de kumanaanba markaa kusoo xidhmay moogta 190 qof ayaa horta kusoo xidhmay beach ka cusba beachka horena sababta uu khatar u noqday kuu sheegi doonaa aan dib kaaga dariyay iyo beachkaas markuu ninkii soo baahiyay aan arkay iska toos anagu markaa dadku waxay la bartaan ay markaste la qabsadaan anagu waxaan soo dhignaa saami online wax kaste alaab kaste waad iibinaysaa oo iibinayno oo iibina noqonaysa waxa horta iibin noqdaan laakiin wax kaste saami online soo gala horta iibin noqdaan sheekaba sheeki keenayay anagu waxaan soo dhignaa wax kasta laba meelood baan ka eegnaa maxalaalba sharciga markaas meeshan ku noolnayna ma ogol yahay waxa markaad baahinaysaan oo iibinaysaan waxaad ka eegtaa ma sharciba oo deegaankaad ku nooshahay iyo deegaanada ku iibinaysid waxaan sharcigaas loo dhigtay meeshaas ma ogol yahay diin ahaan xalaal ma yahay marka waxaan soo dhigi jirnay wax kaste oo soo dhignaa sababta laftii waxaan arkay saamo dameer iibinay wakaas taa dameerkaaba moogtahay ahayde dameerkaas hadhow baan kugu dari sheekada adu markii aan soo dhignay Khalid Fodari waxaan ku yiri saaxib like na meeshii ma jirto macaamil beerga ma soo raacayso dadkina de iska toocsanayaan oo xaraabay buu haystaan waxane saaxib ka saar baad ku tiri ha fiidiyowga muuqaalka ka saar sababta muuqaalka waxaan u baahnaa inuu de macaamiishu ogaadaan laakiin wuxuu noo sababay in macaamiishu wax loogu dhex iibinayna ay yidhaahdaan in alaabtan dib u qaadanayo ma rabno meeshii dawaatan hawadiiba laga qariyay kuwii waxa weeyaan wax iibsanayeen damabay arkeen meel lagu iibsado iyaguna waxa iskaga haysteen beach adoo ka bax meel kale ma jirto moogta kadibna
qola kala qaadatay muuqaalkii goor ay qaateen be qola kala qaadatay qoladaasi waxa weeyaan welibana shakhsiyan baan qofka u sheegay anuu soo baahiyey tvgana waa sheegay laakiin qofka sida intuu soo macaaneeyey uu soo subkiyey uu soo geliyey muuqaalkii waxa weeye Guuleed Cunaabi MMTV ay ku shaqeynayeen marka MMTV baa soo gelisay MMTV markii ay soo gelisay iyagu xataa kamaan codsan laakiin ninka Guuleed Cunaabi baan aad ugu mahad celinaya oo Guuleed Cunaabi baa fideed macaaniyey oo soo geliyey sidii hore aad dhigtay si ka duwan u dhigay si ka duwan oo intuu soo tirtiray iyo muuqaalkaygii iyo codkiisii wixii soo geliyo ka soo dhigay kadib buu maasha Allah tabaaraka Allah si qurux badan markaas loo ogaaday Khalid Fowraarina de sababtiisu ku sii ogaaday Guuleed Cunaabiyo isaga laftirkiisa mahad celin bay weyn mudan moogtahay Guuleed Khalid soo dhigin de gabadha tan moogtahay Khalidna aniga nafsiga ma qaatay Khalidna ana ka codsaday oo ku saaxiib ii soo dhig marka saaxiibtinimada iyo ogaanshihiisa ma garanaysaa ayuu deegu soo dhigo hadduu qof kale yidhi sidii sharciga de meeshiisa meeshiisu igu soo dhigi lahaay laakiin saaxiibtinimada iyo dhalinyaranimadi maadaama Khalid garanay ayuu igu soo dhigay oo meesha saama online fooqan isku jiri jirnay kadibna Guuleed Cunaabi markuu soo dhigay MMTV buu kala noqday muuqaalkii cid kastaana ka falcelisay kiisi wanaagsan uga falcelinay kiisi xun uga falcelinayba macaamiish ka mid noqday dadna waa kugu soo biiray beachkii kale kala arag sidii baa lagu odaay saama online platformkiisa inuu jabsaday oo saas ay horta halkaas ay caqabad moogtahay ka baxaysanto ka noqoto dadkuna markaa saas dib ugu ogaadeen dib baan saa ugu soo kacnay 23 markaa beachka fiiri saama online alaabta soo dhigno commenti waxa ka bixinayay markaa beachka koowaad kumanaan qof saalib dameer baan iibinayna dameerkan ku soo sheekada dameer dameerkan iibinayna saaxiib anu ismaan lahayn de iibi laakiin anu saama online wixii loola imaado ayaan iibiyaa dameerka masaajidka laga iibka xafiiska alaab iibinta jooga wixii loola imaado marka iyaga loolama imanine waxaan soo maraa anu gaari baan wataa saama online ku qoran tahay gawaadhidii saama online waxba ku buufsan kadib saama sheekada dameerka intaan ii gelin page-ka yaa ka jabsaday niyo saaxiibka cali horta mid baa jirto page-ka kale lama jabsan waa platformada ku shaqeynayso dhan horta yaa jabsaday mid baa jirta marka dadku waxa jirta laba si oo wax loo jabsado marna inta page-kii wad garanaysaa wasaaradaha kala duwan meelahaas iyo page kale inta la jabsado ayaa de laga soo dhex qadin jiray wati loorin jiray oo muuqaalo kale soo dhigi jiray iyo waxba dhar iyo wax soo dhigi jiray moogta anigu laakiin kaygu uu ka duwanaa cidi doontaba ha noqotay uu ka duwanaa horta oo kaygu looguma talagelin hawi waxa ku jira wada qoladaas haday ku yihiin hawadu markii yaatay waxa weeyaan de waa laga dhex qadin lahaa waxba lagu dhex iibsan lahaa moogta maadaama wax lagu dhex iibiyana soo fiican buu yeelan lahaa moogta laakiin waxba lagu dhex iibinayni waxa weeyaan markii koowaad locationka ayaa laga bedelay markii la jabsaday locationka waa laga bedelay kadib waa la dilgareeyay facebookuna inaad ogtahay kala mooyaane marka la dilgareeyo waqti mu qabtaa oo hawada qaban maalmood ayuu hawada kaga baxaa 14 maalmood oo hawada kaga baxayna locationka wixii wala qariyay sidii baa markaa hawada saas u kaga baxay marka sabab aan u oranay marka cidaas jabsato beriga horta kow ila marka laba wixii weyn ugu dhacaanay ما أوراني موقتها لكن تهون كم جلنا حتى ما تهون ده تهون يقلي لكن هو تهون كي إنه ده جالنا شغله إنه قفت هونتي واحد كفضوض أفكك شيء كتير صح لكن وحي واحد إلا هلا باك إن وحي أتكيشيد أتدبيس كده بأورد وحي وأتكانسا أنا مركب وحي صوب حظي إن أنا وحي أنا أتكيسي ويا شديد وحي يوصل كعين أنا بدور كوهتو إنسان والله مركب عن ماشي عد شبستين وتقرون إنه طبعا كم أوراني عد شبستي أورين ما بقرني صح ده وين فهمي موقتها وضع يبحري لكن كم أوراني عد عصا شبستي سببا عدي ولا هذا يديك وحا يسمي مجتو صح سببته أولين يكون شيء إن لستيتشيتو لسفلقادية يعني واحد يبغى صلاة بني مجرى ووحي تجي تكسبها هل مدو كلياتات kaga adkaan karaysaa qof kasto adiga markaa doonaya in hoos ku dhiga ama dadaalkaaga iyo waxa wanaagsan wadid waxa doontid waa in aad qofka kaliyaatay wax kaga adkaan kar in qofkii wax ku dhufatid wadishid ama wax kale ku samaysid ma aha halka mideed qofka kaga adkaan karaysid waa hal mid oo kaliyaat waxa weeyaan
inuu arko mar kale adigoo dadaalaya meeshii meel ka sarreysa adigoo taagan ajiib waana ta keliyaatee aan qaatay oo ah inaan waxa weeyaan aan oraahdaas aan ku tacalluqo aan oraahda dhex maro tii baa noqotay in magacii aan mar kaste aan de halkii saami oo laga filin inuu iska mid jabo iska bahay halkii maahane sidii hore u dhidsanaa si ka badan ayaan u dhidisay oo suuqaatee shirkadii aan ugu baahiyey caqabada maxaa ka baratay in platformadaadii oo dhan hal habeen aad u soo kacdo iyagaan shaqaynayn waqtigaas safar aad ku jirtay dad badan oo deegaano kala duwan jooga ay platformadaadaas markii waxyaabaha aad soo dhigto ay arkaan ay kula soo xiriiri jireen wax kaaga iibsan jireen caqabad weyn baa dhacday oo wax yar dee maaha maxaad ka baratay caqabada horta markii problemkii imaado ayaa caqabadii baa hagaagisa moogta caqabadii markii timaado ayaa waxaa ka dhex baxaya fursadaha kasoo dhex baxaya horta markii la jabsaday warin kuu sheegayo laba waxba dadkii qaar alaabahan u haynin dib inooga la laabanayo oo wax ka faa'iido warin kuu sheegayo anagu ma nihin dukaan alaabtiisa inta soo gataan waxaan platform u dhaxeeya iibiyaha iyo iibsadaha sax oo adiga qays ahaanba wax iibinaya saam online ba ku dhex iibinaya qof kalena wixii uu iibsanaya markuu qofku wixii iibsada adigii lacagtii ay kuu soo dhacaysaa horta alaabtii wixii aan hayna alaabo oo stoorka yaalay waa lala wada noqday oo dadkii lahaa la maadaama dadkuna dhib ma lahayn oo wax islaahayd meeshu maadaama la jabsaday dameen ma sii taagnabay waa iska hawadii ka istaagaysaa oo iska baxaysaa alaabtii inta laabto taasi waxay keentay in dhaqaaluhu halku naga soo galay uu istaago dhaqaale halku naga soo galay badaay ilaana waxbaan iibinaa waxbaan iibsanaa isku xirkii dadka iyo idinkuna macmiisha iyo kambeyniguna meesha ka baxo wakaasa anigu ma yihi dadka ummadda shirka saami online kumaan bilaabin lacaga badan oo backup ma haysan saami online waxay soo xareyso ayaan ku waday ilaa intaan ku waday waxda aad ii tustayna waxa weeyaan wax wadi karan noqotay anigu markan bilaabay caadiyan $25 baan ku bilaabay wixii waxay dhalayeen waxay sii dhalayeen baan xafiisyada iyo shaqaalaha iyo wax kasta ka bixinay laakiin wixiiba meeshii ka soo galiyeen markii istaagtay waxay noqotay in dib isku cuno macnaha wixii dhigaa lahaa kaydkii faa'iidadii aad dib u isticmaasho faa'iidadii aan dib u isticmaalo ilaa 2023 bishii lixaad ayaan dee saas samaynay waa 8 bilood 9 bilood wax saasa dee dhigaalu gurmaa moogtay wixii dhigaalka marka bixinaysa macaamiisha meesha kaa soo gelayeenna aanay kugu arkayn meelo cusub ay noqdeen biijka ina meesha cusub waxay noqotay niyo waa dabayaad waxu doonataa waa kan wixii si cid uun waxu doontaba waxa weeyaan markaas way adkaydo dee nin yaroo dhalinyaraayo iska boodiyo hawshiisa iska wato weligii cid u baahano galaangal sii lahayn horta waxay noqotay inaan waxa weeyaan caqabada aan ka barto in horta inaad marka horeba sida caadigaaba siiq sii xiratid markaad macni bilaabaysid markaad caadiyanba sidaada caadigaaba aanad keligaa taagnaanin noloshaada caadiga xataa inaad keligaa taagnaanin aad siiq yar sii xiratid mararka qaar ay wax kugu soo dumaan aad halkaa yar ka bixitid oo xidhiidho dad badan aad sii samayn kartid anigu markaa xidhiidho dad salaanta guud iyo saawan aqaanay iyo de madax salaanta guud moogtahay laakiin dad intan u tago wax weydiisto aan ku idhaha aniga shirkaddii baa saaga noqotay dee dad caadi ah oo shacab iyo dad madaxaba niyo waan arki waay kan is idhaahdo u tagna dee daaniga taallaa moogta maanta anoo baahano nin baahan leh nin baahan dan leh baa la odhan jiray kan is idhaahdo daba carab marka xoogaa yar daba socdo way igu adkaataa inaan sii daba cararo qofkii oon baahidii ilan shalay ma moogtahay shirkaddaydu bii taagneed moogta kadibna waa iska daayo adayg bay waxaan is yidhi bal sidaada ku wada hawshaa laakiin caqabaddan ka bartay waxa weeyaan qofku inaanu keligii taagnaan karin waa kow ama madax ku tiirsano ama dowlad ku tiirsano ama shacab ku tiirsano ama cidda doonti ku tiirsano inaad cid ku tiirsanaatay markii wax kugu soo dumaan waa muhiim weeyaan soomaalida waxay tirahdaa ama buur haw ama buur ku tiirsano waa badi hadal saxa waa taas weeyaan waa kow kadibna adigu de marka wixii sidii noqdeen hawlihiina iskoosteen waxay noqotay in hawlihi adkaadaan oo shaqaalaha laftarkooda dee iyaguba dan leh moogtahay dhowr qof mooyaane laakiin shaqaalaha laftarkooda in adeer dhowr leh
dan iyo de waxa weeyaan dan meeshuu joogay qof kasta ma fadhiyo moogta waay qof laakiin dantu idin walaalaysay baa jiro hawshaadan ka soo bixi karay shaqaalihii waxay bilaabeen in markii mushaharkii dhowr bilood niyo isku noqday isku adkaaday in shaqaalihii dee qof kastaaba dee gusta galo uu shaqadii iska daayo laakiin horta caqabadda koowaadaan kuu sheegaya waa taasoo inaad meel waxa weeyaan markaaga hore sii xidhatidoo dadyo kusii tacalluqido hawlahaagu bataan oo xidhiidh aad sii samaysatid waa muhiim weeyaan waa midda labaadna waxa weeyaan qof dadkan oo idilba danta ayaa isku keentay sax iyo dadku horta way badan yihiin waqti dadkan kuu shaqaynaya ee dantu idin wanaajiso idin walaalayso way badan yihiin laakiin hal mid baa jirta markay dhantaa iyo waxaasi adkaadaan in yar baa soo hadha shaqaalihii badnaa maasha allah tabaaraka allah aan wada shaqaynaynay markii hawshu adkaatay niyahow waxa dhacday inay waxa weeyaan dee qof kastaa markuu bishii koowaad iyo labaad uu heli waayo inuu dee ustagado uu shaqadii yidhaahdo shaqadii niyo daadu culaysyo kale yidhaahdo culaysyo kale ima odhanaya qofku moogtahay war niyo saasi shaqadii baa adkaatay dee lacagna ma jirto waa iska tegaya ma odhanaya moogta wuxuu ku odhanaya qofku saaxiib dee hawshaas ay ku soo baxday hawshaa wax yaruu kaaga dee baxo laakiin maadaama tiimka saami online hablaa uguna sarreeyay markasta oo anigii igu xiga tiimkaas habluhu mar kastaba anuu shakhsiyan ragguna waa rag aad cajiib u yihin laakiin anugu shakhsiyan qaacidadiida ah in waxa weeyaan habluhu ay kaga shaqo badan yihiin kana daacad siin yihiin oo waxa weeye daacadnimada xagga la sheegay howlkarnimada raggu waa daacade raggii inaan isku xanaaqin moogtahay howlkarnimo ay ka yihiin xagga ragga oo dadkii ugu dhabar adeegay markii aan ahaa aan dee heer gobolnimo ay noqotay hawshii shaqadii dee adkaatay hablay ahaay hablaha magacoodu ma sheegi meeshay doonaana ha kala joogaan sabab aan odhanay halkaasii joogaan laakiin in sahre la yidhaahdo sahre cabdiqaadir ilaaha barakeeyo waa salaamaya meel kastii joogto iyo sidoo kale hoodo inuu la yidhaahdo iyadana halkan kolley waxa weeyaan way daawan doontaa muuqaalkan iyadana halkan ma ka salaamaya meel kastii joogto hooda bilan iyo sidoo kale kow dadka hore ila soo shaqeeyey oo iyaguna ahaa inan la odhan jiray ikraan jacfar iyaduna dadkii ila soo jabay waqtigii adkaa kula soo maray waqtigii adkaa ee cadaabta ahaa ee cajiibka ahaa ee adkaa ila soo maray caasho cuud inan la yidhaahdo iyaduna halkan ma iyadana ka salaamaya iyadana iyo inan kaloo la yidhaahdo hibooyinkaa markaa labaa waxaan jeedaa hibo hoodo sahra iyo ikraan iyo caasho cuud shantaa hablo waa wada hablo shantaas kuu soo dhabar adeegay oo ganacsigii marka uu balaasumadii hawada ka baxeen bilaa mushaharkii kugu dulqaatay iyo wiil la yidhaahdo cabdilaahi nidaamiye iyo beder nin la yidhaahdo waa dadka aan isla shaqaynana hadda insha allahna meel fiican oo maasha allah tabaaraka allah aan isla gaari doono waa marka dadka ila soo dhabar adeegay dadka horta meesha kaga soo baxay taasee marka anu muhiimadda iyo caqabadda markaste waxaan ogaado keliyaata laba waxoo caqabaddu waa waxa keliyaatee waxa weeyaan aad marka koowaad wax ka baranaysa dadka dhan waxaa idin walaaleeya isku keenaya waxaan kuu sacabinaya o dhan waxa weeyaan intan aad hawlahaagu isku toosan yihiin laakiin inta gobta ah ee kaale aragga ah ee waxa weeyaan dee farkufiiqa le wuxuu noqonayaan waa dadka maalinkaa aad dee hawlaysanta aad is leedahay nin wax kula soo kiciya saamiyow halkaas aynu intaa kaga nimaadno sheekadii dameerka aynu ku noqonayna aniga laftigaygu dee beijkaaga waxaan ka mid aha dadka ku xidhnaa marar badanna waan ka adeegtay maalmaha ka mid waxaan arkay adoo dameer iiba xayeysiinaya sheekadaa dameerku siday ku timi saamise dameerkaasi horta ma iibiyey siday ku timi iyo horta hal arrin baa jirta saami online waxay meel kasta wax iibisa kaga duwan tahay suuqyada caalamkana ay kala mid tahay dhinacna ay kaga duwan tahay mar kasta waxaan eegnaa waxa weeyaan shaqada ay qabanayso shaqa ma tahay meeshan deegaanka ay ku nooshahay sharciyanna ay baneeyeen horna waa kugu shay diiniyana banaa
wax kastoo saami online keentid waa lagugu dhex iibinaya marka labadaa laga eego laakiin dhaqanka dadku hadduu doonayo xumaan hawla ekaato saami online haddaad geshid hadda beijka geshid meel kaste bisaami online marka geshid waxaad ka dhex arkaysaa waad ka dhex helaysaa wax kaste oo niyadaada kusoo dhacaya si aan ahayn xaaraan waxaa jira waxyaabo xaaraana oo dhaqankeenu uu ogol yahay wada dhaqankii sharciga dalku uu ogol yahay tusaale jaad iyo sigaar iyo shiishad iyo fayb iyo waxyaabaha dhaqanku uu ogol yahay laakiin diin ahaan iskeer adag tag kuma dhex iibino saami online waxyaabana waxaa jira diintu ay ogoshahay saasoo kale ah laakiin waxyaabo marka labadaa laga eego ay wixiiba ogol yahay laakiin dhaqan ahaantii laisdhex maro laakiin aan isticmaalno ayaa jira tusaale niyadda waxaad ku qabanaysaa wax kastood u baahan tahay iminka haddaad ku qabatid waxaa ka mid noqonaysaa niyadda waxa ugu yaraan aad ku qaban kartaa cuntooyinka oo kale cuntada bisadda haddaad tidhaahdi iminka dalka oo dhan saa wareeg ma helisid deegaanada soomaalida o dhan maba helisidba waad wareegi cuntada ayda dog food haddii lagu idhaahdo haddaad internet ku qortid amazon iyo alibaba kuwaas uu kuu soo saari laakiin deegaanada soomaalida meesha keliya tid ka helisid waa saami online wax laga qajilayo qajilaad ahaan oon de iminka afka ka odhanayn sida weeyaan laakiin iminkaad baari kartaan markaad waxa weeyaan qof kastoo macmiil inuu baari karo wuu ka dhex helaya laakiin laga yaabo inaan adeegsano laakiin markaan dalbanayno oo kale haddaan suuqa tagno aan ka xishoonayno ayaa ka dhex buuxa markaa sheekadan dameerkan kuu soo celinaya sheeko fana runtii xafiiska toos inta loogu yimid horta laguma odhan naga iibiya noo iibiya sababtoo ah tiimku markaa dee way la yaabi lahaayeen laakiin aniga wax kasta ay soo maro la yaab may lahayn waxaan soo maraa markaan soo socdo mararka qaar meel la yidhahdo fooqa dameeraha oo dameeraha hoos istaagiyo fooqaaba la yidhahdo fooqa dameerado waa halkaa wuxuu ku yaala suuqa dhexdiisa fooqaa markaa gaari ximaaradii iyo waxyaabahaasa hor istaaga marka ninba arkuuno adi dameer baan hayaama noo iibin buu idhaahdaa buu ku dhahaa haa ayuu idhaahdaa dameeradan de siidada baa lagu iibiyaa baa malaynaya kadibna dameerku aanu ma aqaanin lahayn dameer maan kaxaysan weligii moogtahay oo dameeradan caadiga suuqa lagu sii daayay waxaan u haystay inay isku mid yihiin waxaan ku niyo dameerada suuqa waa suuqa ka buuxa oo kuwa suuqa ka buuxa nahdi baa laga dhamaysto way dhawr jabeene kani waa nin dameer ku shaqaysto haa kani wuu taagan yahay waxyaabaha waxa weeyaan waxyaabo dee gaar aanu leeyahay noo iibinaysa aduu wixii dhowr jeer marka soo maray meeshii sidii ninkii ugu yiri baan bakaalin waan ku iibinay waan ku soo gelinay laakiin la iibsanay in kale taasay noogu daran xafiiskii baa nimido goor subaxay ahayd oo u sheegay tiimkii dee waxaan qof wax buu qaabilsan yahay xafiiskii iibka dadkii fadhiyey baalka sawdirka xafiiskii ma garanaysaa xafiiskii iibka qolooyinkii fadhiyey waan la hadlo waxaan ku yiri warniyow sheekaa jirta maanta wax kasta iibinay dadku way yaabi jireen marka hore laakiin marka dambe la qabsan jiray oo alaabihii loogu la yaabka badnaa maanta loogu iibska badan yahay markaan u sheegan ku yiri dameer baa noo iibiya waddada ku arkay bal idinku soo xidhayaa markuu idin imaado hawshaa ka qabto khidmadda u sheegayo waxaasoo dhan lacagta lagu iibinay buu wuxuu yidhi nin waxaan u baahanay dameer saasaan iibinaya oo dhalinyaro ah oon waxa weeyaan oon dee hore hawlaha qaar dameerada looga ilaaliyo aan u samaynin moogta oo dameerku sidiisaba waxyaabo laga ilaaliyo leeyahay dameerlayaasha garanaya moogtahay iyo dadka ku shaqaysteen waxa weeyaan hawshaas ayaan rabnaa maxaa lagugu iibinayaa 360 miyaheed mise 250 wadda iminka dad baadhid dameer intaad ku qortid saami online aad ku dartid ama internetka dameer ku qortid uu kuu soo baxaya niyo baalkii qoladii dhisaynka qoladii dhagdhag waa la heshiiyey waraaqdii buu buuxiyey dameerkii baa la soo eegay dameerka marka kii uu yahay saxda ahaa tiimka qayb ka mid ah ayay waan tegaynaa anna waan raacay annagu markaa dameerku inuu dhawr jabay inuu buuxo inuu ma garanayno moogta sidii baan ku nidhi waxaad samaysaa qof dameerada garanaya ayaan bal u yeedhinaa marka mararka qaar biyuu naga go-aan mid dameerlaa baa jira noo shubi jiray qof dameerada bal saaxibkaa loo soo eegay wuxuu yidhi bahalkan waa kaale arag ha ka yaabin saaxiib buu yidhi bahalkan waa xagga hore haddaa lacag haystaan iibsanaa waa la soo geliyey bahalkii waxaa lagu iibsaday 2 saacadood iyo 20 daqiiqo bahalka soo xaysiin dadku sababta loo iibsadayna dadku way ka toocsanayeen way ka xaraabisan xaraabiga heerkii laakiin ninba wuxuu u iibinayay hooyadii oo tuulooyinkan Hargeysa dhinacan ka xiga joogta ajiib
marka anigu de ma garan anigu bahalkan iibin asagii waan soo eegto qaabkiisii wixii saxdii kii la sheegay yahay bahalkii sidoo uu doonayay ayuu noqday qof kaste oo shaqaalihii kamid ahaa tiimka kamid ahaana horta aqli gal uu noqday bahalkii la iibsaday qof kasto macaamiisha kamid ah bahalkii la iibsadayna way noqon weyday moogtahay waxa weeyaan de aqligiisii geliyo dameerba online saami online ay iibinaysaa moogta marka wax kaste oo saami online maanta la soo geliyo hataa imika cuntada bisadaha cuntada waxa weeyaan ayda wax kasto de aqli gal ahayn oo aqli gal halkan ka ahayn laakiin de saxdii ah aad ka baadid watilisa saami online watilisa way sheekada dameerka saami inta aan kaan wada runtu waa sheeko marna fani ah marna ajiib in dameeraad soo xaysiiseen markii ugu horeysay haddana la iibsado 2 saacadood gudahood saami markaan wareysiga ku ballanay aan biograph-kaaga dib u baadhay wararka baraha bulshadana dib baan u yara akhri waxa jira warar sheegaya in saami uu dalka ka tagay oo aad baraha bulshada u qabsaday wararkaas ma reality ba iyo horta hal ba jirto markasto waxa weeyaan waan ku lahaa caqabad kasta waxa laga bartaa moogta qofka deegaanada ku noolahay qofku hadduu meesha ka guuro oo meel kale u guuro anaga horta dadku ma aqoonin meel aan deganay meel kale inta wax iibisa bisba de noo iman jirtay inta wax iibsata laakiin noo iman jirin waxa jirta mar aan ka guurnay fooqii hore deganin aan ka guureynay fooqaasna 2000 waxay ahayd 24 dhexdiisa markaan fooqi ka guureynay ayaa waxa social media la soo geliyay sheekooyin iska adigu de sumcadda iyo shirkadda iyo wixii ku saabsan oo in de hoos u dhac haddii meeshii ka guureyno saami online meel kasta u guurto haddii magaalada dibadeeda degto qofka wax ka dalbadaa badanaa ma imaado qofka wax iibinaya unbaa imaada iibiyaha iibsaduhu badanaa way yartay intaan aragno وحفيزك يماطو صوتها بلاتفورم كاس كل حيب سدا سيجي ماشي جوجا بديلي لوجيا ديليفري لوجيا كدي نوحا سميسمي markii meeshan ka baxayn team ayaa sameysmo team kaasi markii tusaale meesha laga guuriyo kale xashiish baa ku haraya meesha saami online na waxay ahayd meelo waaweyn oo isku furfurano anaga isku furfurano meesha de fooqaba quruxda ka dhignay moogta duhurkii markii laga maqan yahay alaabtii furfuran wixii ay soo idaarin jireen yaa soo idaarinaya qolooyinkaas social media soo dhigay waxa weeyaan daacayad iyo waxyaabaha maxaa la yiraahdaa xafiiska ilaanadu joogno ma iman karayaan intii soo idaartaan ay duubi jireen alaabiyo qashinkii wixii isdhex yaalay alaabtii meeshii laga guuray marka ma oranayaan saami wala halkaas u guurtay laakiin marka waxa socotayna berigi darbiga laga boodiyay Mareykanka dhigtay yahay way soo duubaan waxay yiraahdaan saami online meeshii way kacday saamina dalku ka tahriibo wuxuu tagay ii sheeg Mexico Mexico dalbigu ka booday qof kasto waan ku sheegay qof kaste oo macaamiisha kamid ah waa laba macaamiisho qofna waxba u iibinaa صح qofna waxba ka iibisaan qofku waxa uu iibino isagoo xushmad buu naga mid yahay kan aan wax naga iibsada ka kale naga sii mudan alaabtiisa aan hayno waa kan waxa weeyaan alaabtiisii noo keensaday warehouse-kayga u buuxo dadka alaabtan u hayno dhani markii meeshii imaadaan meeshii laga guuray laakiin de anagu waan baahinay moogta laakiin dadku badanaa waxa gaaro warka fiican ma gaaro waxa gaaro warka xun warka xun baaba de waxa ka dheeray macaamiish ma imaadaan meeshii war meeshii laga guuro dibka ugu weyn jiraan waxa weeyaan macaamiisha looma tilmaamo meesha kale degnay wala ma yiraahdo saami online halka way ka guurtay maadaama dad nooga dambeeyaan halkaasii degeen bankiga dhexe waxa weeyaan hargeysa markii joogtid bankiga dhexe masaajidka Sheekh Dir agtiisii degeen wakaasa wax la yiraahdo saami online ha ma jirtay dadka lagu oranaya dadkii halkan markii laga arkay unbaaba markii maadan meesha ma jirto kadibna ku turugtaantii baa waxay u gaadhisay saami dalkii uu ka tagay ma joogo saami waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa dadka alaabtii meesha ugu hayay ayuu alaabtii gabigeedaba intuu iibsaday ayuu dalka ka tagay ka dhoofay
weligii dalka caadiyan anigu halkan baan ku dhashay moogta kuna koray kuna weynaaday waxna ku helay waxna ku noqday waan dhoofaa meelaha qaar waan tagaa wadamada qaar waan tagaa laakiin dantayda u tagaa waa soo noqdaa moogta laakiin mana tahriibin mana bahleen sidii baan xafiis ku dhex fadhiya dadka markay dib igu imaadaan wasaami sawtin lahaa sidaysan oo xagada iyagaaba i tusay oo yidhi social media waxaa laga lahaa marka muhiim ma aha waxa weeyaan muhiimaddu halaadayga weeyaane Sam online way dhisantay halkii hore meel ka weyn ay degan tahay tiimka hore tiimka ballaaran way leedahay sidii hore si ka cajiibsana waa tan u adeegaysa hadda Samu xafiiskaaga iyo halka aad imika degan tihiin dib baynu qaybaha dambe barnaamijka ka tilmaamayna waxaan kaloo ku weydiinayaa ma jiraan dad macbiila oo kambaniga Sami online lacag ay kaga maqan yihiin wararkan baraha bulshada aadka ugu faafa maxaa ka jira mid baa jirta horta shakhsiyan anuu Sami magacaygu waa Sami shirkaddu waa Sami online anana leh shirkadda mulkiyadeeda aniga leh Sami online waxay leedahay macaamiil tirooyin badan meel kasta joogaan meesha doonaa kala joogaan waxaa jirta macaamiil alaabuhu ka daahaan alaabtoodii lunto qaar ay dib ka gaaraan cillad kasta way soo baxdaa ilaa haddaan rabo waxa weeyaan inaanay cilladi soo bixin moogtahay dukaan yar kaliya intan furtaan bur iyo sonkor iyo waxa ku iibin lahaa laakiin waxaasoo dad waxaan ugu adeegaynaa waa in alaab kasta qofkiisa ay gaadho qof kasta alaabtiisa gaadhin la xalliyo marka caadiyan qof intuu la oranayo alaabba Sami igaga maqan online shirkadda igaga maqan oona isiin ma jirto laakiin ha alaabba igaga habsaantay way jirtaa hadda aan kula hadlayo waxaa jira dalabaad de gobolada qaar loo kala diray weli aan macaamiishi gaarin laakiin qof shakhsi intuu yiraahdo imaano Sami waxaasi online bay waxaasi igaga maqan yihiin message jira qofka kaga maqan yihiin intuu toos noogu imaado xafiiskayga imaado ayuu yiraahdaa alaabtaas iga maqan iyo waxaas iga maqan laakiin wax intii kaga maqan yihiin aan loo garaabin ma jirtaba hadalkaaga su'aal baan ka dhex arkayaa dadka alaabaha dalbada ay lumaan ba saad xalisaan fiiri hal mid baa jirta Sami online marka alaab laga dalbado mas'uuliyadda Sami online isaga leh ilaa qofkii intuu gaariso way ma aha dukaanka bahalkaasan ku soo saarna gaarigaas saa ula soco way qofka haduu Jabuuti joogay ma tusaale ama garow jooga ama gaalkacyo ama berbera ama boorama alaabtaas intii gaariso saar mobilkana uu soo dalbay alaabtaas intii gaariso gacanta ku qabsanayo anaga mas'uulka shirkadda Sami online ma mas'uulka haddii alaabtaas jabto anaga mas'uulka anagu de qoladii transportation ke baski waxaas gawaarida aanu qabsano laakiin qofkii uu wax ku leeyahay idinka anaga u xalina markaa haddii alaabtii loo bedelayo markaasanu bedelnaa markaa nidhahnaa sida shirkadaha caalamiga alaabtii way jabto somaha alaabtii dib u soo celi alaabtii waan kugu bedelnaa markaa alaabtaas way marka taas weyn Samiyow qaybta macaamiishaadaynu tegaynaa dad badan oo geyga Soomaalida aad u kala duwan baa si uu Sami online ugu adeegtay sax magaalooyin badan baa alaab laga soo dalbaday sax sidoo kale degmooyin baa jira oo adeegtay marka gobo laga yimaado magaalooyinka ma jiraan magaalooyin aad macaamiil fara badan ugu leedahay niyo horta waad xusi karto macaamiishu markasta magaalooyinku wada badan yihiin macaamiil magaalo kasta way leedahay laakiin muhiimaddu waxa weeyaan magaalooyinka qofka eegfeeri waxaa jirta marka wixii bilow ku yihiin magaalooyin ama cid markaa ku tiri hore u soco keep going waadniyo waad samayn kartaa oo kugu wixii ay qabanaysay kugu dhiirigelinaya moogta anigu shakhsiyan magaalooyinku way badan yihiin macaamiil badanaan ku leenahay tusaale Jabuuti macaamiil baan ku leenahay Hargeysa macaamiisheedu ciidaa leh Muqdisho macaamiisheedu ciidaa leh laakiin waxa weeyaan magaalaan oo magaaladaas ahayd magaaladii koowaad waxa iga soo dalbata laba noqonaysa magaaladii koowaad ee lacag inta ay soo diraan aan iraahdo Allah hayaa haay in lacagtu bilay saadaka macnaha saadaka baxdaayo oo yidaaba saada oo waxa weey lacagta alaabta igu soo dirsan lacagtii ugu badnayd marka soo gashayna ahayd waxay magaalada la iraahdo Qardho Puntland ka tirsan Qardho Puntland ka tirsan tahay waan salaamayaa reer Qardhoodka dhamaantood magaaladaas waxa jira laba nin oo aqoon lahayn meel ay iga soo arkeen internetkaas oo iga soo arkay laakiin magaalada kullu ma haro ragaasna Saleebaan Qardho nin la yiraahdo way jeeri isagoo cosmetics meelaha kule labada nin horta wixii ugu horreeyay iga soo dalbaday maalmo ciidaheedo iga soo dalbaday magaaladaasna ay tahay magaalada kaliya waxa weeyaan halkan iga taala moogtahay iyadoo magaalo ahaan
maadaama tahay magaaladii ugu horreysay online wax lagaga soo iibsado markii dambena iyagaaba ugu noqday magaalooyinka ugu badan ilaa haddana dee ugu horreeya wax ka dalbada Saami online. Saamiyow walow barnaamij ku dheeraadayba waan soo koobaynaa madaxda Somaliland ma jirta cid ka adeegatay iyo horta badanaa iib caadi ah anigu aan waxa weeyaan sameeyaa anigu inta iibka dul fadhiisto ma iibiyo wax laakiin madax waxa weeyaan Saami online wax ka soo dalbatay dabcan laga yaabaa dayaan oran waxba kama soo dalbadaan moogta laakiin hadda kasoo waxa weeyaan intan ogaa intii aan anigu wax iibin jiray intan dul fadhiisto iibkan wax iibinayay waxa kamid ahaa maayirka hadda ii sheeg Cabdikariin Mooy ayaa kamid ahaa oo macmiil fiican noo ahaa inkastoo waxa weeyaan dee baryahan kolley waan eegi karaa systemka iibka kolley wax soo dalbaday ba laga yaabo laakiin intii aan dadkii wax naga iibsanayay sida fiican noo dhiirigelin jiray isagaa kamid ahaa way maanta heer nooca Abu Saami online taagan yahay meesha adeegsan jirtay ma gaadhay iyo kuma taagin way kuma taagino waxa weeyaan hadunba hadana meesha meel kasta markastoo islaam meesha waa taagantiin kuma taagin waxa ogaanay inaan wax u taagnin oo meel taagnin meel weyn ba waxa weeyaan noo harsan way deegaanada Soomaalida ma dhaafinba way ma jirtaa talaad siin lahayd qof dhalinyaro ah oo hadda raba inuu bilaabo ganacsi online talaad si samxin noqon lahayd anigu hal mid online kaliya tamaha qof kasta tala kastoon siinayo waxa weeyaan markaste oo rabtid inaad wax samaysid waxa aad jeceshahay inaad samaysid ha noqdo waxaad markaa niyadda ku haysid inaad u jabtid oo u kacdid oo u kuftid waxa weeyaan caqabad kastoo kaa soo martana waxa weeyaan aad u dhabar adeegtid taasoo noqonaysa in wax kasta ay kali kugu noqonayaan marka caqabado badan ay kusoo hor istaagaan sidoo kalena ay kali kugu noqonayaan markay gidaara adag ay ka hor imaadaan laakiin inta waxa weeyaan aad haysatid aad caddahay aad waxa weeyaan ordaysid aad markaa hawlaha wadid waxa laga yaabaa in lagu sacabtamo laakiin maalmahaad kuftid waxa weeyaan ha noqon ku amar qaata ama sidoo kale ku tusaale qaata dadkan ku hareeraysa sababtoo ah waxa ugu macaan ugu fiican waxa weeyaan qofku inuu kufo uu soo kaco wax ka fiican oo ka dhadhan macaan ma jirto sababtoo ah tusaale anigu maalin kaste oo wax yar naga qaldamaan ama wax yar naga cilad yar soo waajahdo ama adeeg yar aan dareeno marka aan dib uga soo noqono wixii dhadhan wax noo yeelataa dee aad macaan oo wax weeyaan wixii wax ka macaan marka qof kasta waxaan leeyahay oo dhalinyaro warkow waxaad ku dadaashaa waxaad jeceshahay inaad u jabi kartid ood u dhibtoon kartid ood meel kasta u mari kartid Saamiyo abaal u hayaa iyo horta abaalku u badan yahay abaalkina waa isaga laftarkiisa kala nooca qoys ahaan marka laga yimaado horta qoyskayga abaal de markasta waa u haynayaa waa qoyskayga moogta hili hoobo de waxay ku siinaya ay ku garab taagan waa iyaga cidda kaliyaatee aan meel kaaga tagahayn oo qoyskaaga si kastoo wax ku yihiin laakiin horta halkan waxaan markastiyo horeysiyo dambayso aan ugu ducaynayaa uga mahad celinaya waxa weeyaan waa kow ayidii gacalo sureer xuseen xasan ilaahay ha barakeeyo amiin ilaahay ha shaafiyo waa xanuunsan tahay laakiin qoyskaygu marnaba ma kala dhacaan waan mahad celinayaa laakiin waxaa jirta dad aan qoyskaaga ahayn oo kugu leh abaal amaba maxaa la yidhaahdaa reebto dee in maskaxdaada ka go'i waayaan dabcan waa laga yaabaa dadkaas inay dadka qaar aanay dee wax kale aanay isdhaahdaan sidii abaal ugu galayn waxyaabaha waxaa laga yaabaa maanta haddaad u baahan tahay $10 adigoo $10 si saa'ida ugu baahanoo si nafsiyana ugu baahan hadduu qofkaasi $10 ku siiyo waxaa laga yaabaa inay ku noqoto waxa weeyaan $100,000 lacag kaaga qiimo badan dabcan anigu shakhsiyan waxaan aad ugu mahad celinayaa abaalku waa qofka in waxa weeyaan abaalkiisa af iyo dee adin wax si kastaba aad ku sheegi kartid laakiin hadda afku ma ka sheegayaa waxaa jirta waxa uu ahaa qofka koowaad horta abaalkan u hayaa qoyskayga ka baxsan waxa weeyaan mudan Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore Soomaaliland weeyaan dabcan waa laga yaabaa inaan istiraahdan siduu ugu hayaa abaalka waxaa jirta in 2018 Ramadaan yadii ahayd ayaa waqti ka horeysan la kulanay madaxweynaha horta waxaan ahaa qofka kaliya magaciisa garanayay sax ah uu oranayay Saami online
waa midda koowaade si uu ugu bartayba waan u mahad celinayaa waqtigaas kadib baa dadka markii madaxweynaha la kulmay qof kasta wuxuu ugu idhaahdaa war nin saamiyo madaxweynuhu lacag buu ku dhiibay lacagtii wax naga sii aniguna cerkan iska hay waa markiiba meeshu bilow iska haydoo kala layga sugayo hawla layga sugayo waxba dan lagama iibsan jirin anigii markaa waxaan ahayn aniga shaqaala waxaan ahayn 4 qof aniga inantii sorry aniga iyo inantii aan kulahaa way la shaqeynaysay markaas ikraan la odhan jiray iyo labayna noo kale afarteeda rabadaan markaa iyadii taagan tahay oo igu cas tahay oona lacag hayno shaqaalihii yaabin yihiin qofku markii rabadaan tahay ku culus badan yahay qofka lacagaha iyo mushaaraadka bixiya dadka kala moogta qofka xataa shaqeeya uu ka hawl badan yahay waxa la odhanayaa lacag baad shaqaysatay mee waxa berigaasa waxa dhacday ninkii noo geeyey markaa madaxweynaha ilaa madaxweynaha gaari moogtay qof isku kan xidhay qof isku ka xidhay kiiban ku qayliyay wani dadkina saasi leeyay anigana waan ugu castahay meel aan wax u doontana ma hayo kulanka madaxweynaha ku noqo hay madaxweynaha u tagtay madaxweynaha u tagnay anagu dhalinyaro badan ah dhowr iyo 10 dhalinyaro 20 dhalinyaro bay ahay oo waxyaabo kala duwan sameeyay marka hal abuuradii ugu cadcaddaa ma sha Allah tabaarakallah ay kamid aha marka aan kamid noqdanay magaca saami online ka anigu laba qof dhankan iga xigay madaxweynaha iga koonayay dhankiisa iga xigay markii soo gaadhay wuxuu saami online waan garanaya madaxweynaha waqtiga marka garaya miya fooq uu soo hormari jiray halkan deganaa maadaama halkan wadadiisii uu soo mari jiray bariga uu ahaa musharax iyo gudoomiyaha sida inuu ahaa arki jiray mooyaan laakiin saas uu yiri marka anigana yidiilay gashay moogta in madaxweynaha dhamaatay marka waxa fadhiya wasiiro iyo maayir Solteko iyo dadkaas dhan moogta marka qof kasta ee levelku taagay mar kasta baahida iyo codka codsanaya oo madaxweynaha moogtahay ay ku baahaysantahay maadaama isla madaxweynaha la kulmaysa codsi levelka waxa soo lahaa qofna iga sii dhisi lahaa warnin madaxweynaha la kulmaysaay niyad weyne waxa kugu jiro lacag weyn weydiisay moogtahay iyo wax weyn weydiisay la horta maalintaas waxaan weydiistay anigu wax kale ma waxaan ku yiri codsi baan wataa madaxweynaha waxaan ku yiri fiiri wax kale weydiisan lahaa ma laga yaabo inuu siin lahaa markaa laakiin anigu waxa igu quflay xabad boorkii ilaahay laga dhextaago baa aragtay ee sagal jadii taagan ayay igu qufleeyo boorka sawirkaaga weyn iyo xayisiiska ku samay madaxweynaha miyaad markaa weydiisay dawaan weydiiyay madaxweynaha waxaan weydiiyay anigu ma bixin karay markaas boorarka moogtay ganacsiga kala bixisa lacagta lagu daabacayo lacag badan bixin marka waxaan ku yiri madaxweyne maadaama maayirkii uu ku hor fadhiyo waxaan ka codsanayaa inaad iigu sheegtid wixii ii sheeg board magaaladeena ka taagto bal madaxweyne ku tiri ayaan ku yiri ila codsi digaag uu noqday moogtay wax weyn baan leeyahay wax weyn baan weydiisan lahaa moogtay kadibna madaxweynihii wax kale ma oran wuxuu yiri maayir ma maqlaysaa saami hawshiisaas wixii aad uga fududeyn kartay u dhamay hawshiisaas saa ugu dhamay warniyo niyadu ma ka yiri maxaa ku gutay ma de boorkay waxaan wax ku nimad weydiisay intaas uu ilaahay dubaha kugu dhufan lahaa sidii madaxweynaha ka ganay markaas kadib daadad iyo waxbaa markaa ku dhuftay gobolada Asia galbeedka anigoo leh warniyo saad kii lacag badan baa ku soo dhacayso dadka dhan leeyihiin madaxweynaha la kulanteen ayay had qof kastaan uu yiraahdo madaxweynaha hatta teamka wada shaqeynaya lacag ba madaxweynaha ka soo habaysateen madax maxaa la idin soo hadda ilaahay iga sareeyay waxaad sheegaysaa lacag de shaaxba malaka soo cadmay dum si fiican waxaad shaaxii biyo ka soo cadmay moogtay oo de madaxtooyada protocolkeeda dawis iska adag yahay sidaad bilaa ka soo wareegay bisha rabadaan bay ugu casaatay markaa meel aan lacag ka keeno warwarka adduunka cidna wax ma dhiibsan weyn anoo yaaban oo sidii u taagan ayaa waxa dhacday waxaan la hadlay anoo maalin markaas iskaga jooga iska jiifa ayuunbaa waxay u soo dhacay nin maxaad samaysaa sidan baa taagan markaa qof kasta qof baa jira dee u dhow halkan waan ka salaamayaa xaaskayga ahna boqoradayda saaxiibadayda cidda saaxiibada keliyaatidii aan isku sir qarsano ma garanaysa waxaan ku taladii waa igu cadee xabiibiyey maxaan sameeyaa waxaa igu tiri nin horta kaa fiiri madaxweyne weydii ku tegi dadkiina waxaa isleeyahay lacag ka soo yar lacag laga rabaa madaxweynaha ku cabaadidba madaxweynaha xagan mara ninkii idin geeyey la hadla ninkii baa la hadla
ninkii markan la hadlay baa niyo waxa dhacday ninkii dhowr jeer isug saamiyo weli warkama hayo warkama hayo bishuyadiioo dhowr iyo 20 ah mise 26 wax saasa oo yaabanay oo shaqaalihiisu yaan baan niyo tala ugu cadday ama maalin saa u soo socdo gurigeyga ku sii socda gurigiisa hortaagan isla guriga gabanba ay soo garaacay telefoonka laga soo garaacay dhag telefoonka markii laga soo garaacay waan ka qabtay ilaa anigu ana dhan moogtay qofkii soo garaacayna waa garay telefoonkii markii laga qabtaan la hadlay adeedu waran madaxweyne Musabbix adeedu waran u fiican tahay haa waa fiicanahay waan kala batay markaa wada hadlaysaan haa wada hadlayna waan kala batay markaa lambar telefoon gaar ah ka wada hadlaysaan telefoon gaar ah oo de qofkan aan igu xiriiriyay laakiin ma ahan number markaa aan arkayo waan ku oranay sidan baan u arkay waa kala batay wiiga baahday waxaan yidhi markaa ninkan dawaan u sii sheegay wax lacag baa u baahan in adeere dawxun in adeer simo samay markaa qofba marbii u weyntii lacagtu mar wax laga yaabo 500 kun dollar in heshid oon ahayn lacag 500 kun dollar inay ku noqoto lacag iska caadi ah marna 10 dollar in heshido ku ah كمان كنا دولار مدحويني وحي عبد الواحد قدوميها أيا وحويان إن سوري إن لطليها دي مدحوينها صح عبد الواحد بقى إن وحويان انت هاي ركوز صدري وحويان هؤلاء ترى دي هؤلاء تعرض يوحبا تري قلباتك دي هؤلاء شادو إيش هيك انتهس هؤلاء كوسو boorkii wad codsatay ku dhameeyay boorkii ma aha lacag baan marka u daweydiistay ninka waa sax tii halkii boorkii wixiyo marka weydiistay madaxweynaha lacagta de aan ugu sii sheegay ninka lacagta ugu sii sheegay madaxweynaha lacag ma ka sugaya inuu yiraahdo de intaas aniguna de niyadeydu iska yareedo de marka lacag kasto lacag badan kusoo gasho lacag badan ma sii raadinaysa marka wax weyn bay ahayd intani wuxuu marka inta uu ku soo habeenayo de عبد الواحد انت كوسو هبينايو adeer intaas iga qabo wixii kale in irgelin wax kasta way sameeyna wax badan ba soo socda madaxweynaha de aad madaxweynaha waa in dhalinyaro inuu taageero halkan ku jiro intii ayuu soo diray yaan la soo dhan muxuu soo diray waxay ahayd $500 oo ka badan $500,000 $500 oo ka badan $500,000 xigmada ku jirta waa maxay ka badan macnaha maalinka waxaan ugu baahnaa $500 ma ahan $100 waxaan ugu baahnaa si cajiibay horta maalinkaas oo waxyaabaha ay markaa noqotay in madaxweynaha abaal u hayo oo qofka maalintu dee adigoo hawlaysan uu kaaga fujiyo waqti isagana sidoo kale dee abaalku waa badan yahay wani kuu sheegay inta abaalkan waxaan sheegi karin baa jiray waxaan sheegi karay laakiin ninka kale sheegayeen waxa weeyaan isaguna maayirka hore Marshal Teko Abdurrahman Raacid isagana sababtu sheegay waxa weeyaan in qofku wanaagiisa waan laga mahad celiya isagana Facebook isku jirnay ismaan garanahay maalinkaasaan soo ogaanay wiif baan u diray gacanta yare de Facebook si qurux badan buu soo jawaabay ma sha Allah tabarakallah oo dhiirigelin saami ma fiicantay si tahay adu si qurux badan buu soo jawaabay boorkaad u baahnayna waan saaysa imika moogtay wixii wax ka weyn bay galan moogtay marka waxaan asaasiyay shirkad la yiraahdo Saami Delivery mootooyinka adigu maayirkii wuxuu yiri anytime wadi imika Saami hal abuur cusub la timid dhalinyarada habboon in la dhiirigeliyo ayaa tahay marka adigu albaabka ma xirna ii kaale haddii fursad baa meesha taagan moogtay fursaddan iska ma dayici karo wantii adigu waa kulanay waxaan ku yiri marka waxaan u baahanay mootooyin maadaama hal mootay ma haysto oo kaale arin ugu shaqeyso shirkadii ugu horeysay delivery shaqeysa oo ku shaqeysa de intan deegaanada Soomaaliland oo dhan number 1 baan ana haayo oo anigu ku shaqeynay marka mootooyinkaas aan u baahanahay in aad ii badisid lacag marabe wuxuu intee noqonaysaa adigu lacag waa u sheegay xoogaa laakiin wuxuu sheegay hawluhu hawlahan jiriyo waxyaabahan in badin marka maayirku wuxuu markaa ii ballan qaaday aad baan ugu mahad celinayaa lacag yar ayuu ii qoray lacagtii uu siiyay soo qaatay iyo dhul laakiin dhulka iga muhiimsan dhulka hadda wixii aqoon mid yeelay tibda muhiim dhulka ma garanaysaa dhulka anigu farsamada iyo siiqyada iyo wadooyinka loo maray ma noqon dhul buu ii qoray wuxuu yiri waraaq soo dhul baan codsaday markaa anu wixii igu muhiimsan moogta markaa dhul baan doonayay
hungary wax ka dhis wuxuu ii qoray dhul hala siiyey saami uu ka samaysto warehouse maadaama hal abuur cusub oo fiican uu la yimid marka siiqi laakiin la mariyey wadooyinkii la mariyey ayaan aqoonin moogtay waraaqda guriga dhigto waxaas laawo waa lagu soo garaacay wax lagu oran doonaa saaysa laakiin waqtigii wixii oo dhan ayaa si isku dhex waraaqdii marka meel bay kolley waa xusuus moogtay dhulkii ma heshay ma helin dhul dee anaan wadooyinkii la mari jiray ee dadku maraan haddii maayirka ku siiyey maadan dee anigu fiiri waxaa jirta wadooyin la maro waa sax anigu wadooyinkii la mari jiray iyo siiqyadii la mari jiray ayaanan aqoonin lamaba garanayn moogta dhul halay dhul iibsadumaan dee dusha ka garanaya moogta ilaa haddaa marka koowaad wax waaweyn garanayo berigii horaan wax weyn weydiisan lahaa moogta marka sida waraaqdiisa kaga haysta isla hawl lagu soo garaaciyo wax lagu oran doona saamiyo dhulkeed wax ka dhisanaysiin baa ilan saas ma ahaan lama sugay adaa doonanaya moogta wada maadaama adiguna dee xaqaad u leedahay oo nin dhalinyaraayo wax keenaa tahay dhulkii maan fahamsanayn iyo waxaan farsamada loo maro waraaqdii way iska taallaa dee gurigii iska taallaayo sababta u taallan waxa weeyaan wax kasta xusuustoodii leeyahay oo dee mustaqbalka xusuuso badan baa la qorayaa moogta oo ka dee waxa weeyaan intaasaaba xusuusi ah haddaan heliya haddii kaleba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waxa weeyaan ninka la yidhaahdo siyaasiga weyne ee maxamuud xaashi isaguna dee qofka ama hiil baad ka heshaa ama hoo ama odhaahda marka isaguna hadallo badan oo aan arkay uu markastii igu dhiirigelinaya isagana aan ka arko social media isagana aad baan mahad celinaya isaga weligii maanu kulmin laakiin de mar kastaba way kaa geysantay baan leeyahay isagana kelmadaada ugu dambaysaa barnaamijka kusoo xidhaysaa maxay tahay niyo kelmadda ugu dambaysan leeyahay waxa weeyaan keliyaata wax la arko ugu xanuun badan leh waxa weeyaan waxaad soo aasaasiysay ood hawl u soo jabtay ood usoo dhabar adeegaysay oo burburaaya sanadka dhaweytalo waa ogeyn 24 dhalinyaro badan suuqyadoodii iyo waxa weeyaan ganacsiyadoodii way burbureen niyad xanuunka haystana maanta iyagunbaa og laakiin way qarsanayaan in qof kastoo dhalinyaraha iyo qof kastoo wax raba inuu isku dayo waxaan leeyahay warniyo noloshu way adkaanaysaa marba marka kasii dambaysana way adkaanay lama odhanayo waxa weeyaan noloshu macaan bay ku soconay laakiin mar kasta ay sii adkaataba waxay kugu abaalmarinaysaa u sii adkaysatid waxa weeyaan inay kaa dhigto mid ay ku abaalmariso wax fiican oo abaalkii iyo wuxuu istaahilay ah tusaale waa ogtahay habeenba habeenku goortu kasii dambeeyay waqtigu kasii dambeeyo waad garanaysaa waa madow haddii cishaa ay tahay waxa kasii madow sagaalka marka tahay habeenkii salaada subax agteedu waqtiyada ugu madow weeyaan laakiin maxaa dhow iftiinkii macnaha waqtigu kaaga adag yahay waxa kuu soo dhow waa guushaadii iyo wixii fiicnaayd gaari lahayd markaa saaxiib iyo saaxiibayaal keliya taladan siin lahaa waxa weeyaan nolosha iyo waxaan rabtaan marnaba ha ka niyad jabina mar unbay waxa weeyaan idiin noqonaysaa wax ka midho dhala oo midho dhal noqonaya adduunkuna iska hawlo badan yahay hawlihiisa sida aad ula saaxiibi lahaydeen waxa weeyaan falowgeed gala keliya intaasaan dhalinyarada iyo cid kastoo wax samaynaysa leeyahay daawadayaal intaa waxaa nagu eeg barnaamijkii aan toddobaadkan la yeelanay hal abuur saami cabdi kabas mulkiilaha sami online.com toddobaadka xiga iyo barnaamijka kale ayaynu ku kulmi doonaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu